الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، hadduu ilaahay yidhaahda subxaana wa tacaala waxaan wax ka tilmaami doonnaa taariikh nololeedkii iyo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay afartaa qofood ee lagu magacaabo khulafaa'u raashidiinta, iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu manaystay inay u sii adkeeyaan oo ay u sii wadaan diinta habkii nebiga u wadi jiray sala allahu calayhi wasalam markii uu dhintay ka bacdi. afar ayay ahaayeen oo waa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali bni abi taalib radia allahu canhum. afartaasi qaasa ayuu kula dardaarmay nebiga ilaa ummadda uu ku yidhi facalaykum bisunnatii, waxaad laasimtaan ood qabsataan oo aad ku dadaashaan sunnadayda iyo khulafaa'u raashidiin sunnadooda. goosdambeedka ku qabsada ayuu yidhi hayay idinka fakanin. sababtu waxay ahaayeen khulafadii ama nimankii hanuunka iyo khayrka wanaagga ku waday markii nebiga dhintay ka bacdi. sidaa darteed waxaannu ka bilaabaynaa abubakar bacdama uu yahay ninka asaga ugu horeeya khulafaa'u raashidiin, ninkii ugu horeeyey khaliifada ka beddelay qabtay markuu nebigu dhintay ka bacdi. sidaa darteed ayaa abubakar waxa uu leeyahay sharaf aad iyo aad u gooni ah oo ilaahay khaas ahaan u siiyey subxaana wa tacaala. abubakar ilaahay ha ka raadi noqdee waxa uu ku dhashay magaalada maka. magaciisana waxaa la oran jiray cabdullaahi ibni abi quxaafa amase cabdullaahi ibni cuhmaan ibnu caamir bin kacab. ninka noocaasa ayuu ahaa, laakiin xilligii jaahiliga waxaa loogu magac dari jiray ayaa la yidhi oo la oran jiray cabdilkacbata bin cuhmaan bin caamir, rasuulka cabdilaahi u bixiyey sala allahu alayhi wasalam. waxa uu ku dhashay saan soo tilmaanay magaalada maka kuna barbaaray. hooyadii salma binti sakhr ayaa la oran jiray waa umulkhayr. sidaa darteed waxa uu dhashay 2 sano iyo bar kadib markii ay dhacday waqcadii ama imtiqaana dhacdadii caamulfiil. caamulfiil ayuu ka dambeeyey 2 sano iyo dhowr bilood. sidaa darteed ayaa waxaan ka fahmaynaa meesha abubakar inuu ka yaraa 2 sano iyo waxoogaa ama 2 sano iyo bar taqriiban rasuulka sala allahu calayhi wasalam. nebi dhashay caamulfiil, laakiin abibakar 2 sano iyo bar ayuu ka dambeeyey ama 2 sano iyo dhowr bilood ayuu markaa ka dambeeyey caamulfiil. abubakar wuxuu ka mid ahaa ru'asadii quraysheed. wuxuu ahaa nin xabiib ah ama muxabib ahoo aad looga jecel yahay magaalada. zaahid ayuu ahaa, dulqaad badan. shujaac ayuu ahaa, geesi ah. wuxuu ahaa nin kariim ah oo raxiim ah oo ra'uuf ah. abubakar radia allahu tacaala canhu wuxuu ahaa oo kale rajulan shariifan caaliman, nin shariif ahoo caalim ah kuna cilmi badan oo aad u yaqaana nasabyada quraysh. wuxuu ahaa taajir ganacsado ah.
wuxuuna dadka kula mucaamali jiray mucaamalad aad iyo aad markaa u wanaagsan. abubakar radia allahu tacaala canhu wuxuu ahaa baa la yidhi rajul abyadu lown, midabkiisu uu cad yahay, haddana ah nin naxiifuuljismi, caata ah ayuu markaa ahaa abubakar radia allahu tacaala canhu. saxaabada oo dhan ninka ugu ajwadsan ee ugu saqisan ee ugu gacan furanna markaa wuu ahaa radia allahu tacaala canhu. abubakar ninka lagu magacaabo khayrka iyo wanaagga ayuu ummaddaa kula dhex jiri jiray. waxa uu ahaa cumrigiisa mar allaale markuu islaamayay 37 jir. sidaa darteed ayaa islaamka waxa uu ku dhex noolaa 26 sannadood ayuu islaamku ku dhex jiray. wuxuu ahaa odayaasha qureysheed midka aad iyo aad loogu jecel yahay. wuxuu aad u koobaysaan soo tilmaanay uu si fiican u yiqiinay ansaabta qabaa'ilka oo dhan, akhbaarta carabta. sidaa darteed bay carabta qureysheed waxay ku naanaysi jireen bicaalimi quraysh. quraysh caalimkoodii ayaa la dhihi jiray abubakar. wuxuu ku sifoobay ama naftiisa uu ka xaaraantinimeeyey xilligii jaahiliga ah. waxa uu naftiisa ka mamnuucay ee uu u diiday uusan weligii isticmaalin cabitaanka khamrada. khamrada mausan cabi jirin, asnaamtu wax uma gowrici jirin. waxyaabo fara badan oo dhaqanka jaahiliga ka mid ah ayuu nadiif ka ahaa. waayo xadiis baa hadhow tilmaami doona. dadka waxaa u wanaagsan ama macaadinta carab markii rasuulka la weydiiyey wuxuu ku jawaabay khiyaaruhum fi lislaam khiyaaruhum fi ljaahiliya. qofka jaahiliga markuu ahaa akhyaar ahaa oo fiicnaa oo xaliim ahaa oo ummadda ku dhex jiri jiray, akhlaaqdiisu ay fiicnayd, kaasaa markuu soo islaamana akhyaar noqonaya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi idan abubakar naftiisa wuxuu ka xaaraantinimeeyey xilligii jaahiliga ah cabitaanka khamrada. weligii muusan cabin. sidaa darteed ayaa wuxuu isaga mashquulsanaa tijaaradiisa. abubakar ilaahay ha ka raadi noqdee waxa uu jamciye tharwa iyo xoolo aad i badan, ilaa uu ka mid noqday quraysh dhexdeeda dadka ugu xoolaha badan. markuu soo islaamayey abubakar wuxuu haystay baa la yidhi 40,000 oo dirham ayuu markaa haystay. waan arki doonaa meeshuu ku bixin doono markuu soo islaamay, sida uu xoolaha markaa u geli doono. rasuulkaa ku naanaysay ama ku laqabay maalin catiiq. inuu saas u fiiriyey ayuu rasuulku yidhi haadaa catiiqullah min annaar. kani waa midka ilaahay uu ka xoreeyey naarta subxaana wa tacaala. abubakar asagoo intii jaahiliga lagu jiray oo islaamka uusan weli imaanin oo islaamkii weli aan lagu soo dejinin, nuurkii hidaayada aan weli ka soo bidhaamin magaalada maka, ayuu qiimaha iyo wanaagga iyo taariikhda fiican uu lahaa. maalin maalmaha ka mida ayuu baxay baa la yidhi. waxa uuna aaday dhulka yaman. asagoo sidii ku maqanoo imaashihiisuna yahay ayaa nebiga la soo saaray sala allahu calayhi wasalam. sidaa darteed ayaa mar allaala markii maka uu soo galay asagoo ka sheekaynaya wuxuu yidhi waxaan soo galay magaalada maka ayadoo nebiga la soo saaray sala allahu calayhi wasalam. isla markii waxaa ii yimid buu yidhi oo igu soo degdegay cuqbata ibnu abi muciid, shayba iyo rabiica wa abujahal iyo iyo sanaadiidii iyo madaxweyntii qureysheed oo dhan ayaa ii timid. isla markay igu soo aruureen ayaan idhi maxaa dhacay? ma arrin cusub baa soo siyaaday? ma wax baa soo kordhay? mar allaala markii sidaa aan idhi ayay igu yidhaahdeen haa abubakarow, wax weyn ayaa markaa yimid. abubakarow, arrin khatar ah oo aan dhagaha laga qabsan karin oo cajiib leh oo dadka ka fajacisay ayaa soo baxday. yatiimkii iyo agoonkii abitaalib sow ma dhihin nebi baan ahay? saasay igu yidhaahdeen buu yidhi. yatiimkii abitaalib nebi maxamed bay ula jeedaan. wuxuu sheegtay inuu nebi yahay. haddaadan adigu ahaynna maba aan kula sugeenba. abibakarow, arrintaasaa dhacday. abiba hadlay, hadalkuu u wanaajiyey, si fiican buu ula hadlay, waa uu celiyey alxaasil. macnaa hadal fiican intuu kula hadlay ayuu celiyey.
waxyaabihii markaa doonayeen iyo arrintii ay markaa u sheegeen. si fiican buu hadal fiican oo layina oo wanaagsan oo qiimo badan intuu kula hadlay ayuu celiyey. nebigan su'aalay buu yidhi marka xaggee buu joogaa? markaasaa waxaa laygu yidhi buu yidhi abibakar wuxuu joogaa guriga khadiija radia allahu tacaala canha. waan soo aaday albaabkii ayaan garaacay, nebigaa ii soo baxay. waxaan idhi yaa muxamed, waxaan kaa soo waayey manaasishii qoomkaagii ehelkaaga ay degganaayeen. waxaad ka soo tagtay aabbayaalka iyo awowayaalkaagii diintooda. maxaa dhacay? markaasuu nebigu igu yidhi yaa abaabakar innii rasuulullaahi ilayka. abaabakaroo waxaan ahay rasuul ilaahay oo adi loo soo diray iyo wa ilannaasi kulluhum dadkoo dhanba. abibakar, aniga rasuul ayaan ahay, waxaa lay soo diray adiga, waxaa la ii soo diray ummadda oo dhan. abuubakar isla markii wuxuu yidhi fa ana ashhaa ilaaha ila allah wa annaka rasuulullah. anigana hadday xaaladdu sidaa tahay nebi muxamedow, waxaan qirayaa ilaahay mooye ilaah kaloo xaqnimo lagu caabuda inuusan jirin, adigana aad rasuulkii ilaahay tahay. rasuul ilaahay inaad tahay, sidaa darteed buu rasuulku yidhi baa la yidhi, axad islaamka uguma wicin oo raggiinna ka mid ah ilaa waxaan ka heli jiray kabwa, taraddud, ka fiirsasho, ilaa abaabakar mooyaane. abaabakar isla markii aan sidaa idhi wuxuu yidhi fa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah. anigana waxaan qirayaa laa ilaaha ila allah, waxaan qirayaa muxamed inaad rasuulkii ilaahay tahay. sidaa darteed abuubakar waxaa lagu tilmaamaa ama lagu sheegaa inuu yahay ninkii ugu horeeyey ee markaa rumeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waa la kala qaadqaadaa. ragna waxaa u horeeyey oo axraar ah baa la yidhaahdaa abuubakar. waxaa ugu horeeyey dumarna khadiija. cali bn abi taalib ciyaalka ayuu markaa ugu horeeyey. zaydna intaan axraarta ahayn ayuu markaa ugu horeeyey. intaasoo dhan abuubakar radia allahu tacaala canhu waxay tilmaamaysaa inuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee rasuulka rumeeyey sala allahu calayhi wasalam. anigana waxaan ahay waxaan qirayaa inaad rasuul ilaahay adigu markaa tahay abuubakar. inta dambey wuu ka soo tegey asagoo tilmaamay inaysan jirin shay rasuulka ilaahay uga farxad badnayd rumaynta abuubakar. aad ayuu islaamnimadaydii ugu farxay. abuubakar asaga laftiisa wuxuu bilaabay isla daqiiqada iyo laxdada inuu dacwada ilaahay dadka gaarsiiyo, nebigana uu garab siiyey sala allahu calayhi wasalam. saan soo tilmaanay rajul buu ahaa laysugu yimaada agtiisa. rajul ayuu ahaa dadka ay u soo dulmaan, muxabib ahoo dadka isjeclaysiiya, sahlid badan, khuluq iyo dabeecad u saaxiib ah, macruuf ku ah wanaag oo dhan. rijaasha qoomkiisa way u imaan jireen, way la fariisan jireen, asagana waa ka faa'iidaysan jiray abuubakar oo qof kasta uu ku kalsoon yahay oo qoomkiisa ka mida ayuu dacwada u sheegayey. way dacwadu sir bay ku socotaa. abuubakar qof kasta oo ka mid ah qoomkiisii iyo dadka saa ugu imaanayo wuu ka faa'iidaysanayey. waxaa dacwadiisa ku soo islaamay dhowr qofood. waxaa ka mid ah cuthmaan ibnu cafaan, zubayr ibnu cawaam, cabdiraxmaan ibnu cawf, sacad ibnu abi waqaas iyo talxa ibnu cubaydillaah. waa shantaba waxay ka mid yihiin 10kii jannada loogu bishaareeyey. 5 ka mid ah waaye. waa cuthmaan ibnu cafaan waa 10 mubashiriin fi ljanna. waa zubayr ibnu cawaam, asagana waa ku jiraa 10 loogu bishaareeyey. cabdiraxmaan ibni cawf waa uu ka mid yahay. sacad ibnu abi waqaas ha ka reebin asagana. talx ibnu cubaydillaah. intaasoo dhan waxay ku soo islaameen sababtiisa, waxayna ahaayeen dadkii ugu horeeyey ee bidaayada ahaa ee ugu soo horeeyey ilaahay subxaana wa tacaala nebiga rumeeyey, kuna rumeeyey dariiqii dacwada abibakar radia allahu tacaala canhu. maka istaagin inuu diinka sii wadaayo. ummaddii muslimiinta markay sidaa u soo islaamayeen oo islaamkaasaa u soo qaadanayeen oo dacwada iyo diinta ummadda ay sidaa markaa u gaarsiinayeen loo gaarsiinayey, waxaa inta badan soo rumaynayay dadka danyarta ah. waxaa soo islaamaya ducafada, cabiidiinta, addoommada, waxyaabaha la midka ah. kuwa ayaa aad u soo islaamayey. kuwaas ayaa mataqaanaa samaynayay dacwada.
kuwa ayaa mar walba soo marxabaysiinayay oo soo rumaynayay bacdamay xaaladoodu sidaa ahayd. abuubakar waa ku dhex jiray, waa ogaa dhibaato ayaa la soo gaarsiiyey raggii. cuthmaan ibni cafaan oo kale markaan ka soo qaadano, adeerkiisa intuu darin laga sameeyey caleenta timirta, intuu ku duubo yuu hoos ka soo gubi jiray. waa cuthmaan ibni cafaan. mar allaala markay ogaatay muscab ibni cumeer hooyadii inuu islaamay, tacaamkii iyo sharaabkii bay u diiday, raashinkay ka joojisay, gurigiina way ka bixisay. waa taqaanaa muscab ibn wuxuu ka mid ahaa baa la yidhi dadka ugu ceyshka wanaagsan ayuu markaa ku jiray. waa min ancami innaasi ceyshan, ilaa maqaarkiisa uu noqday mid khashfi ah, uu noqday mid qalalay sida xayada iyo abeesada oo kale, maqaarkeeda oo kale ayuu asaga maqaarkiisii noqday. waa muscab ibni cumayr. suhayb ibnu sinaan arruumi asagana waa la cadaabay markuu islaamka qaatay, waa la dhibay, mashaakil fara badan ayaa la gaarsiiyey, ilaa maskaxdu ay ka tagtay baa la yidhi, wacyiga iyo garaadkii uu kala garan waayey maa yaquul, wuxuu markaa ku hadlaayo. sida loo garaacayay suhayb ay u tumaayeen oo ay dhibaato u gaarsiinayeen, waxaa baxay wacyigii iyo garaadkii iyo garashadii uu lahaa, wuxuu kala fahmi waayey u hadlaayo. bilaal oo mawla u ahaa ubay ibnu khalaf, wuxuu ahaa baa la yidhi asaga ubaye inuu qoorta xarig uga xiro yuu ciyaalka u dhiibi jiray. ciyaalka intay qaadaan bay waxay ku dhex wareejin jireen buuraha maka, asagana wuu jiidi jiray oo dhulkay ku jiidi jireen ilaa macnaha ciyaalkii ilaa xarigga qoorta ugu xirnaa uu ta'hiir ku sameeyo, uu raadeeyey qoortiisa asagoo odhanaya axad. ubayibna wuu garaaci jiray, markuu macnaha wuu xiri jiray, markuu aad u xiru xargaha ku adkeeyuu garaaci jiray, uu ku garaaci jiray bilcasaa ul. wuxuu u dhibaato gelin jiray fadhi uu fadhiista fii xari shams, qoraxda kulaylkeeda. dhibaato fara badan ayaa markaa la gaarsiinayay. abaabakar saasuu u dhex wareega, waa fiirinayaa, waa eegayaa dhibaatada dadka lagu haayo iyo sida markaa ay yihiin. camaar ibnu yaasir oo mawla u ahaa libani makhsuum wuu islaamay asaga iyo aabbihii iyo hooyadii. mushrikiinta uu madax u ahaa abujahal waxay u soo bixin jireen bacaadka kulul ee maka. mar allaala marka bacaadku u adkaado ama uu kululaado way cadaabi jireen kuleelkeeda. nebigaa ku soo mari jiray sallallahu calayhi wasalam, markaasuu oran jiray sabran aala yaasir fa ina mawcidakum janna. iska sabra aala yaasiro, mawcidkiinu waa jannada. meesha mawcidkii ballanta markaa idiin ahna waa sida. aflax oo mawla u ahaa libani cabdidaar wuxuu ka qayb qaatay, asaga reer bani asdina wuu ahaa. intay soo bixiyaan marka la gaaro maalinta bartamaheeda iyo nuska maalinta ayaa lugaha waxay uga xirxiri jireen qayd bir markaa ka samaysan, way dhardhigi jireen. markay dharkoo dhan ka dhigaan ayay dahriga iyo dhabarka waxay ka saari jireen dhagax adag ilaa uu dhaqdhaqaaqi waayo. saasuu ku sugnaa xataa laa yacqil, ilaa uu caqli miir daboolmo oo markaa uu caqligiisii baxo. khabaab binu arad wuxuu mawlow ahaa umu anmaar, gabadha la yidhaahdo reer khusaaci ah. nin xadaad ah oo birtumo ayuu ahaa. markay ogaatay inuu islaamay way cadaabtay, weliba biraha uu tumayay mid ka mida intay soo qaaday dab ay dhabarka ka saari jirtay. dabka kulaylkiisa waxaa demin jiray dheecaanka dhabarkiisa markaa ka yimaada. khabaab binu arad. zaniira gabadha lagu magacaabo ama ayay ahayd oo reer ruumi ah, way islaamtay, ilaahay dartii baa loo cadaabay. dhibkii cadaabka ayagoo ku hayay indha beeshay. markay indhool noqotay ayay yidhaahdeen arrintan waxay kaaga timid oo kaa asiibtay, waa ilaahyaalkaad ka tagtee laata iyo cuza. markaasay tiri laa wallaahi maa asaabanii, wax igama soo gaarin kuwa, laakiin wax ilaahay xaggiisa ka yimid waaye. haddii ilaah wuu ii furi karaa. habeenkii bay seexatay, subaxdii zaniira waxay soo kacday indhaheedii oo furan. markaasay yidhaahdeen quraysh waa qayb ka mid ah sixirkii moxamed. intaasoo dhan iyo cabiidooyinka gabadha lagu magacaabo ee umu cubays, nahdiye iyo gabadheeda, cadaabkaas oo faraha badan iyo dhibaatadaasaa la gaarsiiyey. abibakar wuxuu bilaabay inuu soo iibiyo marka addoommada.
dadkaa dhibaatada lagu hayo inuu soo iibiyo oo isla markii uu xoreeyo. waa iibiyaa wuu xoreeyaa, waa iibiyaa wuu xoreeyaa. aabbihii ayaa ku canaantay oo mar allaala markuu arkay inuu addoommadan xoraynayo, aabbihii baa ku qayliyey. markaasuu yidhi, war doqon yahow abuubakar, intiinaysa dadka ducafada ah maad xoraysid rijaal xoog badan oo ku difaaca. markaasuu abuubakar yidhi, aabbe ani waxaan doonayaa ama arrintan aan u doonayaa waa ilaahay wejigii subxaana wa tacaala. markaasuu ilaahay qur'aan soo dejiyey abuubakar lagu ammaanayo, fa andartukum naaran taladaa laa yaslaaha ila alashqaa alladii kadaba watawalla. fa andartukum, waxaan idinkaga digaynaa dadkiinan dadka cadaabaya oo muslimiintii ilaahay rumaysay dhibaatada ku hayo. fa andartukum naaran taladaa, naar holcaysa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. laa yaslaaha, ma gala ila alashqaa, shaqiga madaxa adag mooyaane. waa kee alladii kadaba watawallaa. wasayujannabuha alatqaa, waxaa ka fogaada oo ka dhaqaaqa naartaa taqiga. wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatasakaa wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza. abuubakar markuu wax xoraynaayo uma xoraynayo abaalgud inuu hadhow ku helo, ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa, laakiin wuxuu raadinayaa allaha sarreeya wejigiisa, walasawfa yardaa. dib dambe ayuuna raalli u noqonayaa abuubakar. abuubakar waa raalli noqonayaa, saasuu ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala. abuubakarna sidiiq laftigiisa lama dhaafin in dhibaato la gaarsiiyo. nin dhibaato markaa la gaarsiiya lama dhaafin. ninka lagu magacaabo nawfil bin khuwaylad alcadawiy, asaga iyo talxi bnu cubaydilah buu soo qabtay. wuu isku xiray baa la yidhi abuubakar iyo talxa. markuu isku xiray wuxuu ka manciyey u diiday salaadii iyo diintii inay ku socdaan, amarka ilaah inay wataan, khayrka ay markaa ku socdaan. xaaladaasuu markaa u diidoo meel buu dhigay. mar allaala markii xilligii salaada la gaarayna ayagoo furan oo tukanaya ayaa la arkay abuubakar iyo talxi bnu cubaydillaah. mar allaala markii abiibakar dhibkii uu ku batay oo mashaakilkii asaga soo food saarayay, oo xoolihii dadkii uu ku xoraynayo, oy indhihii mushrikiintoo dhan xaggiisa ay ku soo jeesteen, diintii ilaahay uu sida uu rabo uu ugu caabudi la'yahay maka, ilaahiisii si xasaani ah iyo sidii loogu tala galay ay ciriiri ku noqotay inuu ku caabudo magaalada maka. nebigana asxaabtiisa uu amray gobol ka mid ah inay isaga baxaanba magaalada maka oo ay u hijroodaan dhulka xabashada. abuubakar wuxuu goostay uu go'aan ku gaaray cala alhijrati ila alxabasha. boorsadiisii buu xirxirtay, waa diyaar garoobay. meeshaan dhibaatada iyo mashaakilka leh, bacdamaa nebigii saxaabada uu amray inay iska baxaanay xabasho aadaan, ayuu abuubakar casmiyey go'aanna ku gaaray inuu iska baxo magaalada maka, uu ka baxo xabashadana markaa uu aado. markuu baxay uu sii socday ayaa ibnu duqina nin la yidhaahdo ka hor yimid, ama duqina. ninkaa mar allaala markuu ka hor yimid ayuu yidhi, ayna, xaggeed u socotaa abiibakarow? abiibakar xaggee baad u socotaa? ilaan abuubakar waa rajul saan tilmaanay tilmaamihii fiicnaa laha, dhul aan ku dhashay oo rabbigay ku caabudi la ahay, oo saan doono aan ilaahay ugu caabudi karin subxaana wa tacaala, oo dhibaato iyo mashaakil iyo rafaad ay dadkii igu haayaan, ayaan damacsanahay inaan isaga baxo oon ka hijroodo, oon bilaada iyo dhulalkaa ka raadsada meel aan rabbigay ku caabudo si xorriyad markaa ay ku jirto. ibnu duqina wuxuu yidhi, mithilkaagoo kale abuubakarow lama bixiyo mana baxo. adoo kale nin la bixiyo ma tihid, adoo kale nin magaaladii uu ku dhashay ka baxaya ma tihid. anaa jaarkaa noqonaya, anaa ku kafaalanayo, anigaad ijiwaaradayda iyo derisnimadaydaad ku joogaysaa. war noqo abuubakarow, rabbigaa ku caabud beledkaaga, soo bax buu yidhi. waa la soo celiyey. intuu gacanta ka qabtay ayuu ibnu duqina ku tawaafay ashraaftii quraysh. wuxuu gaarsiiyey hadal, wuxuu yidhi, ogaada abuubakar aniga ayaa jaarsiiyey, aniga ayuu jiwaaradayda ku joogaa, aniga ayaa magangeliyey, aniga ayuu kafaaladeyda maka ku joogaa. wax la gaarsiin karo oo dhib ah ma jiro, waa inuu dhulkiisa ilaahiisa ku caabudaa.
intaa wixii ka dambeeya waxay u shardiyeen inuu daartiisa ku caabudo. waayahay bay yidhaahdeen kufaartii quraysh, abuubakar haddaad soo celisay oo adiga aad soo waday oo jiwaaradaada uu ku joogo, waayahee yuusan salaad bannaanka la soo bixin, akhrinta qur'aanka yuusan ku akhrin ilaa macnaa fii hayri daarihi, daartiisa meelaan ahayn. haddaad doonaysa ibnu daqinow inaan wiilkan ama abuubakar kuu dhaafno, waa in gurigiisa dhexdiisa ilaahay uu ku caabudaa, waa inuusan bannaanka u soo bixin, markuu qur'aanka akhrinayana ha ku jira daartiisa. markii abuubakar cabbaar uu sidaa yeelay, maalintii dambe wuxuu sameeyey masjid ayuu ka dhistay bifinaa'i daarihi, daartiisa barxadda bannaanka ayuu guri ka dhistay masaajid, meeluu ilaahay ku caabudo. waa ku tukanayey maalin kasto, qur'aankana waa ku akhrinayey. waxaa u soo aruurayay oo dushiisa imaanaya dumarkii mushrikiinta iyo ilmahooda, yatacajabuuna minhu, aad bay ula dhaci jireen, way la tacajubi jireen, way fiirin jireen. waayo radia allaahu canhu abuubakar wuxuu ahaa rajulan bukaa, nin oohin badan, laa yamliku caynayhi, indhihiisa aan celin karin marka uu qur'aanka akhrinayo. inta ay derbiga iyo gidaarka u soo istaagaan, ay u soo saftaan, gabdhihii, dumarkii mushrikiinta, ciyaalkii yay saas u daabanayaan, way fiirinayaan, way la tacajubayaan. odaygaan tukanaya, oogaan akhrinaya, oo khushuucaya, ayagii calooshaa si kala noqonaysay, way isbedeli jireen, dhibaata mataqaanaa ayay u arki jireen. ninkan bay la tacajubayeen, aad bay markaa ula dhacayeen, waayo indhihiisa ma celin karin markuu qur'aanka akhrinayo. tilaawadiisa waxay ahayd tilaawo iyo aqrin quluubtaadaysa, ruuxda nafafyaalka. ataa markii maalin kasta abuubakar uu samaynayey waxay ka fajacisay, waxaa fasacay, waxaa argagax galay, waxaa dhibaato iyo murug gashay nimankii quraysheed. nimankii quraysheed way u baqeen dumarkii, way u baqeen ciyaalkii, waxay u baqeen dhibaatada iyo waxyaabaha ku soo food leh. abuubakar daartan uu bannaanka macnaha bannaankan uu u soo baxay, uu ilaahay ku caabudayo, uu qur'aanka ku akhrinayo, in uu ka fidneeyo oo diintiisii ay galaan dumarkii iyo ciyaalkii. taasay mushrikiintii ka cabsadeen. ninkii magangeliyey baa adeeg loo diray, waa yimid. waxay dhaheen walaalow dhegayso, annagu abaabakar madaxaaga ayaan ku dhaafnay, jiwaaradaada ayuu markaa ku joogaa, waxaana kuu shardinay inuu rabbigii daartiisa dhexdeeda ku caabudo. ninkii abiibakar ahaa wuu soo tallaabo dheereeyey, masaajid buu ka dhistay bannaanka barxaddii gurigiisa, salaadiibuu iclaaniyuu kor u qaaday, qiraa'adii ayuu kor u qaaday. waxaan u baqnay inuu naga fidneeyo ilmaha, ka dalab in uu arrintaa joojiyo, uusan la jahrin tilaawada qur'aanka. hadduu tukanayo uu gurigiisa ku tukado, haddaba u tag. haddii uu kaa diido, u celi jiwaarnimadiisa, kala laabo. waxaad dhahdaa, aniga saacaddan wixii ka dambeeya abuubakarow, haddaad gurigaaga ku ekaan weyso, ani kafiil makaa'ihi. dhibkii ku soo gaara adigaa ka mas-uul ah, mashaakilkii dadkaas kaa soo gaara aniga dusha iima saarna. xaaladdaa u sheeg, waayo ibnu daqinow annagu ma doonayno, nin sharaf leh ayaad dhexdeenna ka tahay, qof aad badbaadisay oo ijaaradaada, kafaaladaada ku jooga, inaan annagu dhib markaa gaarsiino. haddaba u tag, ninka abuubakarna arrintaa u sheeg. abiibakar buu u yimid radia allaahu tacaala canhu, arrintii ayuu la socodsiiyey. saaxiib dhagaysuu yidhi, waxaan aniga kuu ijaareeyey oon kuu magangeliyey ma aha inaad bannaanka ilaahaaga ku caabuddo, maaha la dheerayso, waa inaad gurigaaga dhexdiisa ilaahaaga aad ku caabuddaa, waa inaad bannaanka u soo bixin, waa in mataqaanaa waxyaabaha aad akhrisanayso hoos ahaan aad u akhrisataa. haddaad saas yeeli weysa abiibakarow, waxaan kaala laabanayaa jiwaaradayda, kafaaladeydaan kaala noqonayaa. saacaddan wixii ka dambaysa ogow, anigu kafiil makaa noqonaye. radia allaahu tacaala canhu abuubakar muxuu yidhi, jawaabta uu bixiyey maxay noqotay, innii bijiwaari illaahi wa rasuulih, aniga saacaddan laga bilaaba ilaahay magantiisii kafaaladiisaan ku joogaa buu dhahay. wa aruddu ilayka bijiwaarika, hoo qaada buu dhahay jiwaaradaada. ilaahay hoosu caabud iyo qur'aan lama jahri kartid iyo haddii aad waxyaabahaa keentay, saacaddan wixii ka bilowday ilaah baa kafiil iga ah subxaana wa tacaala.
saacaddan wixii ka bilowda nin fiican baad ahayd, waad i hagaajisay, waad i qiimaysay, in badan baad i soo celisay, laakiin haddaad keentay kafiilkaami ihi iyo haddaad saa yeesho iyo haddaad qur'aanka mataqaanaa kor u qaadda iyo haddaad arrimooyinkanba haddii aad la timid, hoo buu yidhi kafaaladaada waa kugu wareejiyey, saacaddan wixii ka bilowda waxaad iga tahay ma jiro, jiwaarada ilaahay ku joogaa sala allahu calayhi wasalam. abubakar wuu iska istimraaray, ilaahay ha ka raadi noqdee, asagoo sidaa isaga dhex jira gurigiisii wuxuu ka dhigtay ama uu ka samaystay meel uu kula jahro qur'aanka akhrintiisa. waxaa u soo aruurayay agtiisa dad fara badan say qiraa'ada u dhagaystaan, waayo wuxuu ku akhrinayay qiraa'o khushuuc leh, oohin ku jirta, tadabbur markaa leh. arrintaasna waxay sababtay inay soo islaamaan dad fara badan, inay ku soo islaamaan oo mushrikiinta markaa ka mid ah. abubakar radia allahu tacaala canhu maka ayuu iska sii joogay, asaga iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam ummadda ayay diinta gaarsiinayeen. in fara badan oo dhibka mushrikiinta ka mid ahna waa ku dul socday, mashaakil fara badan ayaa lagu haayay. maalin maalmaha ka mida dhibkii magaalada markuu ka batay ayay labadoodiiba baxeen, waa abubakar iyo nebiga iyo abubakar. waxay aadeen khaarijka maka. sacabaar intay sii socdeen baa waxay arkeen wiil yar oo ari markaa la jooga. wiilkaabaa ka sheekeeyey waa cabdullaahi bni mascuude. wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah anigoo arigayga la jooga ayaan meel fog waxaan ka garmadoobay oo korkooda waqaari xasilooni ay ku sugan tahay oo dhankayga u soo socda. min baciid ayay markaa ka soo socdeen. waxaa haayay labadaa nin jahdiga iyo dhibka iyo mashaakil in allaala inta qof uu qabto. waxaa ku adkaaday dushooda addama, waa haraad, macnaha oon badan ayaa markaa haayay, ilaa faruurahoodu ay qalaleen oo curuuqda iyo dhuuntooda ay qallashay ayay isoo dul istaageen, way isalaameen. waxay i dhaheen yaa ghulaam axlib lanaa min haadihi shiyaah, riyooyinkan mid nooga liso aan ku damina oonka nahayo, xididadeenna qalalay aan ku qoyno. ma idiin samayn kari baan idhi buu yidhi, ma idiin samayn kariyo ariga animalihi, mu'tamin baan ahoo waa laygu aaminay. labadii nin laba nin oo fiicfiican bay ahaayeen, hadalkayga iguma inkirin, qowlkayga way xaqiiqsadeen. laakiin labadii nin mid ka mid ah ayaa wuxuu igu yidhi waxaad i tustaa ri yar oo aan weli faxli gaarin, macnaa ri yaroo weli aan la boodin oo orgi uusan boodin, oo wax caano ah waxyaabo aan markaa lahayn, itus. waxaan u ishaaray buu yidhi cabdullaahi bni mascuud ri yar oo meesha u dhoweyd. markaasuu u tegey, wuu qabtay, wuu dabray, candhada ayuu saa uga masaxay, wax buu ku aqriyey, bismillaahi ayuu yidhi. anigana waan eegayaa anuu aad ula yaaban. nafteyda waxaan iska idhi goormee riyooyinka yaryar oo aan faxligii abaahinta aan gaarin ay caano yeesheen. isla markii candhadii rida waxaa ka soo caano, wuu soo lisay. markaa kabacdi buu asagii cabay, ninkii kana cabay, oo mar allaala markii caanaha badan ay ka yimideen anigana waxbay iga siiyeen anoon weliba sigaynin. markaa rumeeyo waxaa markaa dhacaya ninkii mubaarika ahaa ee barakaysnaabaa ridii wuxuu ku yidhi war laab oo dib u celi caanahaaga. candhadii baa noqoto dib u noqotay ilaa sideedii hore ay markaa noqotay. waxaan ku idhi war nin yahow ibar qowlkii aad tiri, ghulaam la baraya oo mucallima ayaa tahay. ayay markaa igu yidhaahdeen. labadaa nin waxay kala ahaayeen ee kuhuulada ah ee garmadowga ah, nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu. xaalku markuu saa u socday oo arrintu ay saa isku dabagedgedinaysay ayaa waxaa dhacday sanad lagu magacaabo caamulxusni, sanadkii murugada. abu taalib iyo khadiija war dhintay. weliba mar allaala markuu imtiqaana uu dhintay abi taalib ayaa 2 bilood wax la mid ah kadibna khadiijo dhimatay. waa labada qofood ee nebiga sala allahu calayhi wasalam barbaarinayey, gacantana ku haayay, in badanna looga cabsan jiray. nebiga aad ayuu uga murgooday sala allahu calayhi wasalam. maxaa loo bixiyey sanadkii murugada. intaa wixii ka dambeeyo haddana daa'if aaday. daa'if markuu aaday dacwadii iyo diintii xaqa inuu u sheego wuu ku soo faa'idi waayey, way soo ceyriyeen.
labadaa markay isugu darsantay oo murugi uu ka buuxsantay ee nebiga ayaa ilaahay waxa uu doonay inuu rasuulkiisa kor u qaado oo la yidhi dhulka haddii lagaa diiday oo tolkaagii ay kaa hor yimaadeen oo aad daa'if aaday oo meel aad ku nasato aad la'dahay hawalwelin mala lagaa jecel yahay ayaa jirta. maxaa lagu sameeyey al-israa waalmicraaj. israa iyo micraaj waa la qaaday rasuulka sala allahu calayh wasalam markaa laga qaaday waxaa la geeyey bayt almaqdis. subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu albasiir. waa ilaahii dheelmiyey oo ka qaaday nebi moxamed min almasjid alxaraam waa maka ila almasjid alaqsa masaajidka fog waa bayt almaqdis oo geeyey jus habeenka ka mid ah. asagoo dhan baa la qaaday sala allahu calayhi wasalam. waxaa la soo tusiyey aayaad aad iyo aad u waaweyn. waxaa lagu soo dhoweeyey samaawaadka. malaa'igtii oo dhan baa soo wada dhoweysay. ilaahay ayaa loo geeyey subxaana wa tacaala. fiiri baa la yidhi aayaadkan iyo waxa kaa sarreeya sida laguu jecel yahay, sida laguu soo dhowaynayo. mar kastoo jibriil albaabka garaacdo wuxuu leeyahay waa jibriil yaa kula socda muxamed ma la soo diray? haa, waxaad fahmaysaa in la sugaayey sala allahu calayhi wasalam. dadkan adduunka ku dhagaxyaynaya iyo dadkan sixiroolaa tahay ku dhahaya iyo dadkan majnuunnimada kugu tilmaamaya kugu sheegaya iyo waxba ha uu arkin rasuulka ilaahayow. ma u jeedaa mala'daa sare sida lagaaga soo dhoweeyey oo laguu jecel yahay ilaa jibriil uu ka haray uu yidhi orod rabbigaa sii aad adiga, anigu inta ma dhaafi kara wa in minna ilaa lahu maqaamun macluum. qof kastoo annaga naga mida maqaam uusan dhaafi karin ayuu markaa leeyahay. xaalku markuu meeshaa maraayey rasuulka sala allahu calayhi wasalam isla habeenkii la soo celiyey. subaxii markuu soo kacay ayuu markaa u sheegay ee uu yidhi xaaladaasaa dhacday. xalay waa lay isreeyey, xalay waa lay dheelmiyey, xalay waa lay qaaday, xalay waxaa la igeeyey mala'daa sare baytulmaqdis. ula tacajubeen, ku qooriye iyo ku qayliye iyo ku buuqa iyo xaaladaasaa la wada noqday. ma waxaad leedahay meel aan annagu hal bil u socono bilna laga soo noqdaa juslee lay geeyey oo weliba samaawaadka laysii qaaday? alla abuubakar yaa u sheegay arrintan baa la yidhi. abuubakar baa loo cararay markaasaa loo tegey oo la yidhi abuubakar ayaa dhacday. xaaladaas ayuu leeyahay moxamed saaxiibta war cusub ayuu keenay iga hubiya buu yidhi. marka hore asaga ma yidhi waxaad iga hubisaan inuu in kale xaaladaa keliya iga hubiya. haddii asaga uu yidhi in kaana qaal faqad sadaq, haddii uu yahay mid hadalkaa ku hadlay waaba runtii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. maalintaas ayaa abaabakar waxaa loogu magac daray sidiiq. id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana. maalintaas buu ilaahay sidiiq uu mataqaanaa loogu magac daray ninka abuubakar la yidhaahdo. weliba rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu yidhi jibriilow seen qoomku ugu sheegaa way i beenin doonaan, abibakar baa ku rumayn doonee sheeg buu yidhi jibriil calayhi salaam. abuubakar nin cajiib badan buu ahaa. abuubakar nin qiimo badan buu ahaa. sidaa darteed ayuu yidhi marka hore iga hubiya, idinka baytalmaqdisaad sheegaysaa nebi moxamed oo laga qaaday min almasjid alxaraam oo la geeyey ila almasjid alaqsa. war aniga sakan ayaa waxaan ku rumeeyaa min fawqi 7 samaawaat waxyi ka soo dega, kaasaan rumeeyaa. idinka waxaad sheegaysaan qaadad laga qaaday xaramka oo la geeyay bayt almaqdis. laba sama inta udhexaysa meeqaa udhexaysa? waa 500 caam, 500 oo sana loo socdaa. waa meeqa samadood inta ilaahay ka sii jira subxaana wa tacaala waxyi ka soo degayaan ani rumeeyaa buu yidhi. waxaan rumayn waayey ilaahay oo nebi moxamed intuu xaramka ka qaaday baytalmaqdis geeyey subxaana wa tacaala. bacdamay sidaa tahay abuubakar waxaa lagu magacaabay sidiiq. magaalada maka markiisaa loo sii joogay oo abuubakar meel fiican ay u sii marayso, dhibkiina weli markaa jiro. nebiga sala allahu calayhi wasalam baa riyooday. markaasuu yidhi waxaa lay tusiyey daara hijratukum, daarta hijradiina. daartaad u hijroonaysaan waa meel timir u saaxiib ah oo 2 buurood dhexdooda markaa ka mid ah. way fahmeen inay madiino tahay. in fara badan oo hijrootay dhanka madiinay aaday, in fara badanna waxay ka soo noqotay
xabashada, waa dhulkii etoobiya. markaasaa waxay u soo noqdeen oo ay soo aadeen dhanka madiino. abaabakar wuu diyaar garoobay, haddana wuu isqabanqaabiyey dhanka madiina inuu aado. rasuulkaa yidhi tartiib calaa rislik, sug ha bixin baa la yidhi, waxaan rajaynayaa in lay idmee, aniga in lay fasaxa ayaa laga yaabaa. abuubakar wuxuu yidhi wahal tarjuu daalika biabi anta wayada iyo aabbahay baan kugu furanaya, arrintaa ma rajaynaysaa? qaala nacam, haa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. abuubakar naftiisa ayuu u xabisay. intaa ka bacdi rasuulka suu u raaco 2 gaadiid ama 2 faras ayuu calaf fiican siinayey, uu ugu talagalay in marka la baxayo uu markaa u diyaargaraynayay. weliba 4 bilood ayaa daaq fiican la siinayey. mar allaala markii ay quraysh ku kulantay daarta lagu magacaabo daaru nadwa, oo haddana lagu itifaaqay dilka nebiga sala allahu calayhi wasalam, jibriil ayaa fasaxay oo nebiga yidhi saacaddan wixii ka bilowda waad idman tahayee ka bax magaalada maka. haddii mar ciid laysku shuba iyo cayla caaye iyo ay soo dhaaftay oo 10 nin seefaf inta loo dhiibay albaabaha nebiga ay saas u taagan yihiin oy rabaan inay markaa dilaan, wax kale oo la dhowranaya ma jiro, wax kale oo la sugayaa ma laha, gacanna ha qaadin, isaga dhex bax baa la yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam magaalada maka. nebigu wuu baxay wakhti duhur ay tahay, oo dadko dhan ay istariixayaan, oo dadku ay wada jiifaan guryahooda. guriga abibakar buu soo aaday, waa markii la idmay, suu ugu falanqeeyo maraaxisha hijrada. caaisha ka sheekaysay waxay tiri wakhti annaga oo fadhina guriga abibakar ayna tahay wakhti duhur ah, nin hadlaya abuubakar wuxuu ku yidhi haadaa rasuulullah, abuubakaroo waa kaasaa rasuulkii ilaahay baa soo socda, madaxana waa u duuban yahay, mutaqanic. saacad bay ahayd uusan nebiga u imaan jirin abuubakar radia allahu tacaala canhu. abuubakar wuxuu yidhi aabbahay iyo hooyaday baan ku furanayaaye nebiga saacaddan wuxuu u yimid arrin. caaisha waxay tiri rasuulkaa soo galay sal alla alayh wasalam, waa loo idmay, wuu soo galay. nebiga abibakar wuxuu ku yidhi bannaanka u bixi waxa meesha fadhiya, ilaan si qarsoodiyaa la rabaa in loo baxo. khito ayaa jirtaa, dad ay raadinayaa soo bixi doona, ilaan wuxuu ka soo badbaaday sariirtii uu jiifan jiray oo la tul taagan yahay, ayaa la yidhi ha seexanin ee cali bni abi taalib ha jiifto. saa darteed wuxuu yidhi si aysan sirta u bixin, abibakarow inta guriga ku jirta bannaanka u bixi, ani adi waa wada hadlaynaa. intaa ka bacdi abuubakar wuxuu yidhi innamaa hum ahlak, waa ehelkaaga, waa qoys tarbiyaysanoo sirna ma bixinayaan, waa guri aad looga jecel yahay, waa guri laga soo dhowaynaya beytka abibakar. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku karaameeyey aabbihii, hooyadii, ciyaalkii, wixiisa oo dhan in ilaahay iimaan uu ku arsuqay ahlu janna noqdaan dhammaantoodba. markaasuu dhahay waxba ha welwelin rasuulka ilaahayow, waxaan waa ehelkaagii rasuulka ilaahayow. intaa ka bacdi buu rasuulku yidhi waa lay idmay inaan khuruuj sameeyo oon baxa abuubakarow. abuubakar waa iscelin waaya, isla markii wuxuu yidhi assuxba biabi anta wa ummi, ma ku raacaa? qaala nacam. sala allahu calayhi wasalam way baxeen abuubakar iyo nebiga. markay si degdeg ah uga baxeen si aan loo soo gaarin, waa la dhaqsaday, waa inta uusan fajar ku dhalanin. mar allaala markay gaareen qaarka, waa godka lagu magacaabo qaaru thawr, abuubakar wuxuu yidhi wallaahi rasuulka ilaahayow ma gelaysid ilaa ani aan gala hortaada, wa in kaana fiihi shay, haddii wax dhiba uu ku jirana waa inuu anigu igu dhacaa duunak, adi sokadaada. inta adi dhibka kugu dhici waa inaan aniga galaa. haddii bahal ku jiro, haddii wax cunay uu ku jiro, haddii lagu dhimanayo, marka hore anigaa bilaabaya. abaabakar ayaa galay, fakasaxahu, wuu soo xaaqay, godkii buu soo nadiifiyey, wuxuu ka helay godka dhinacyaalkiisa dulduleelo, macawistiisii dhinac intuu ka soo gooyey yuu googooyey, markaasuu ku cubay duleelihii meesha, wuu ku ooday. intaa ka bacdi wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow soo gal. intuusan dhihin ayaa 2 god soo hartay, 2dii god 2diisa lugood buu saas u kala ray, macnaha markuu u waayey maro kale oo la geliyo 2diisa lugood ayuu markaa saaray. 2diisa
lugood ayuu sidaa u saaray. ayagoo sidaa u saaran buu rasuulkii allow soo gal. nebiga markaasuu soo galay sala allahu calayh wasalam. madaxiisa wuxuu ku jiifeeyey dhabtii abuubakar, waana hurday rasuulka sala allahu calayh wasalam. ilaa wuu soo guuraynayey. intaa wixii ka dambaysa abuubakaraa lugta laga khaniinay. labadii god mid ka mid ah yaa bahalka weliba sunta khatarta badan leh kow ka soo siiyey abaabakar lugtiisa. walam yataxarak. bahalkaas waa bahal hadduu ku qaniino ama in yar uu jug ku siiya caawo dhan aad qaylinayso. caawoo dhan waxaad haynaysaa cabaad iyo qaylo, ma seexan kartid, ma hurdi kartid. saa darteed walam yataxarak, isma dhaqdhaqaajinin abuubakar. sababtu maxay tahay? wuxuu ka cabsanayaa inuu nebigu hurdada ka soo naxo sala allahu calayhi wasalam. daba inuu soo baraarugo, taasuu markaa ka cabsanayaa. intaa kadib ayaa inta u isceliyey, is adkeeyey, indhihiisii biyaha ka soo daatay, dumuucdii iyo ilintii ayaa wejiga nebiga ku dhacday. markaasuu rasuulku yidhi, maalak yaa abaabakar, maxaa kugu dhacay? waa lay qaninay buu dhahay rasuulka ilaahayo. hooyaday iyo aabbahay baan kugu furanayaaye waa lay qaniinay. nebiga waa ku tufay, xanuunkii uu helayeyna wuu ka tegey. 3 habeen ayay meeshaa markaa ku jireen. quraysh markay ogaatay in ay fakadeen oo ay baxeen ragga, nebigana meeshii iyo sariirtii uu jiifay uu ka maqan yahay, way soo carareen baa la yidhi. isla markii waxay yimideen gurigii abibakar. way garteen inuusan meel kale aadaynin. waxay ogaadeen inaysan meel kale aadaynin. sidaa darteed ayaa waxay yimaadeen oy u soo baxeen gurigii abibakar. markay yimaadeen gurigii abibakar, waa quraysh oo dhan, ilaa beyti abibakar, wa qaracuu baabah, albaabkiisii bay garaaceen. waxaa u soo baxday asma binti abibakar. asma binti abibakar ayaa u soo baxday, iriday ka fureen. faqaaluu laha, waxay ku dhaheen, ayna abuuk, na aaway aabbaha, ayna abuuk. waxay tiri, laa adri wallaahi ayna abi, ilaahay meel uu jira ma ogi, maba aqaanba meeluu aaday. abujahal gacantiisu kor u soo qaaday. wa kaana faaxishan khabiihan, faaxish buu ahaa, khabiithuu ahaa, nin aan xishoonin buu ahaa. falatama khadaha, dhabanka asma ayuu ku dhuftay latma iyo dharbaax ee dhegadhegihii ugu jiray. bannaanka wuu u soo baxay, ku dhuftay. dhegadhegihii u xirnaa asma yaa bannaanka markaa u soo baxay, wuu ka soo fuqay. waa xooggii uu ku dhuftay darteed. waa markay tiri, ani ma ogi aabbahay meesha uu jiro. aabbahay meesha uu markaa yahay ma ogi. wuxuu ahaa abijahal, raggu way badnaayeena asaga ugu xumaa. faaxish khabiith ayuu ahaa, maakir aad u dhib badan. markaasuu gabadhii sidaa markaa yeelay, asma radia allahu tacaala canha. mar allaala markii nimankii taaridiintee wax ceyrinayay ay soo kala carareen oo la soo orday oo nebigas iyo abuubakar madaxyadooda 100 halaad la dul dhigay. qaarkii ayay yimaadeen, laakiin ilaahay amarkiisaa soconaya. abuubakar wuxuu yidhi, kuntu maca annabiyi fi lgaar, nebiga la jirkiisaan godka kula jiray, madaxaygan kor u soo qaaday. fa idaa ana biaqdaami almushrikiin, lugaha mushrikiintanba u jeedaa. waxaan idhi, yaa nebiy allah, low anna bacdahum ta'ta'a ra'sah, mid ayay ka mida hadduu madaxa saas u ruxruxo waana arkayaa. rasuulkana wuxuu igu yidhi, uskut yaa abaabakar, shibdhe abuubakarow. 2 allahu haaliثuhumaa, labaan nahay, ilaahay baa 3 nagu ah subxaana wa tacaala. riwaayad kale waxay tihi, maa dannuka b2, maa dannuka yaa abaabakar, abaabakaroo maxaad u malaynaysaa 2 qofoodoo allahu haaliثuhumaa, ilaahay 3 ku yahay subxaana wa tacaala. markii xaaladdii saas ay maraysay oo ay iska dantay naarkii iyo dalabkii iyo gaaladii wax raadinaysay, rasuulkii abuubakar waxay u diyaar garoobeen inay madiine usii baxaan. marka ileen godka waa loogu saandhuminayey, in xarakaadka ay dejiyaan baa la rabay. cabdullaahi ibni urayqad nin la yidhaahda alleythi bay la ballameen. haadi buu ahaa, khariid buu ahaa, khariita yaqaan, juquraafiguu aad u yaqiinay, maahir buu ahaa, dariiquu si fiican u yaqiinay wiilka. wuxuuna ku jira laakiin kufaarta quraysh diintooda. way la ballameen in 3 habeen kadib ay meesha ugu yimaado.
labada gaadiidna uu u keeno. ballantii buu ku yimid, labadii farasna waa loo keenay. isla markii abuubakar wuxuu yidhi, rasuulka ilaahayow laba tii markaa ku anfacda. nebigana wuxuu yidhi, bithaman ya abaabakar, waan kaa iibsanayaa, lacag ayaan ku qaadanayaa. intaa ka bacdi way irtixaaleen, wayna ka baxeen asaga iyo abuubakar, waxaana raacay caamir ibnu fuher wiil la yidhaahdo. xaaladdu saasay markaa u sii socdeen. mar allaala markii jidka lagu sii socday, abuubakar waa la garanayay, nebigana saa looma garanaynin. faras ayuu saaran yahay, asagaa u horeeya nebiga, abuubakar waa dambeeyaa. marka la yidhaahdo maxaa waaye ninka kaa horeeya, wuxuu oran jiray waa daliilu ariiq, nin waddaduu itusayaa. abuubakar wuxuu ula jeedaa waddadii xaqa iyo diinta kii itusaayey waaye, waa kii jidka jannada itusaayey, waa kii ilaahay igu hanuuninayay subxaana wa tacaala. abuubakar asagoo ka sheekaynaya wuxuu yidhi, waan irtixaalno, waan soo baxnay, qoomkiina wayna raadinayeen, qof naga daba yimid ma jirin ilaa suraaq ibnu maalik mooyaane. suraaq ibnu maalik oo far saaran ayaa naga daba yimid. waxaan idhi, yaa rasuula allah, haada dalab baa waaye waxa soo socda. waana la haleelay, gacantaana laku dhigay. rasuulkuna asagoo ilaahay ku kalsoon oo hiqo qaba ayuu yidhi, laa taxzan ina allaha macanaa. abaabakarow ha murgoonin, hana tiirin, ilaahay baa nala jira subxaana wa tacaala. laa taxzan ina allaha macanaa, ilaahay baa micigeena ahee. intaa ka bacdi quba ayay degeen. intaa ka bacdi magaaladii madiinay usii dhaqaaqeen. haddana caaisha waxay tiri radia allahu tacaala canha, rasuulkaa magaaladii madiina soo galay, abuubakar iyo bilaalna way xanuunsadeen, waa jiradeen. waan u soo galay, waxaan idhi, yaa abaah kayfa tajid, aabbow seed helaysaa, xanuunkaaga ka waran, bilaalow adigana ka waran. caaisha waxay tiri abuubakar wuxuu ahaa markii ay qabato qandhada wuxuu dhahayey, kullu mri'in musabbixun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi. qof kasta oo ehelkiisa ku waabariistaa, geerida ayaa uga dhow suunka dacaska uu markaa wato. waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi, dacaska uu qaba suunkiisa, geeridaa markaa uga dhow. caaisha waxay tiri rasuulkaan u imid sala allahu calayh wasalam, arrintii baan u sheegay. bilaal waa jiran yahay, abuubakar wuu xanuunsan yahay. rasuulku wuxuu yidhi, allaahumma alcan shaybata ibnu rabiica wa cuqbata ibnu rabiica wa ubay ibnu, nacaladaada korka ka saar. ninka lagu magacaabo shaybat ibnu rabiica iyo cuqbat ibnu rabiic, ubay ibnu khalaf, kamaa akhrajuuna min ardina, say dhulkeenna nooga soo bixiyeen aan ilaahay isaga caabudi lahayn, ila alardi alwabaa, oo dhul cudur badan ay noo soo saareen. ilaahayow nacalada korkooda yeel, ilaahayow nacaladaada korkooda yeel, say noo soo bixiyeen oo ay noo soo saareen ragga noocaas ah, dhulkeennii bay naga soo bixiyeen. intaa ka bacdi rasuulku intuu gacmaha kor u taagtay oo ilaahay uu baryey buu yidhi, allaahumma xabibna ilayna almadiina, ilaahu madiinana jeclaysii, ilaahayow magaalada madiinana jeclaysii ka xubbinaa saan maka u jecleen ama si ka daran oo kale. ilaahayow saxiix iyo caafimaad nagu sii, noona barakay suuskeeda iyo koombadeeda, qandhadeedana ilaahayow naga qaad oo naga rar oo waxaad geysaa juxfa meesha lagu magacaabo. saasuu ilaahay u baryey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waqad istajaaba allah, ilaahay baa ka ajiibay ducadiisa. riyo ayaa lagu tusiyey imra'a sawdaa, naag madow oo haa'iratu ra's, madaxeeda aan qaab fiican lahayn, oo ka soo baxday magaalada madiina, say u sii socotayna degtay juxfa. wuxuuna ku fasiray wadaha iyo qandhada iyo xanuunka iyo qaniinka iyo dhibka meeshaas dhan ay leedahay inuu ilaahay ka raray subxaana wa tacaala. madiina markii hore meel wabaa ayay ahayd, meel cudur badan bay ahayd, meel dhibaato badan. waxaa la oran jiray yathrib, markaa ka bacdi baa madiina loo bixiyey, ilaa dadku idhaahdeen madiina munawara, waa madiinadii iftiintay. maxay la iftiintay nuurkii nebiga sala allahu alayh wasalam, waxay la iftiintay nuurkii hidaayada iyo xaqa, waxay la iftiintay nuurkii ilaahay subxaana wa tacaala, waxay la iftiintay nuurkii tawxiidka, waxay la iftiintay iftiin fara badan iyo wanaag fara badan yaa meesha markaa lagu helay. sidaa darteed ayay meesha askun ka dhigteen, meesha ayay markaa degeen. abaabakar waa ka soo baxay marka magaaladii maka, hadda waxa uu degan yahay magaalada madiina.
magaalada madiine ayuu markaa degan yahay. sharaf iyo qiimo iyo wanaag fara badan buu saxaabada dhexdooda ku leeyahay. nebigaa jaceylka uu u qaba darteed nebigu waxa uu guursan doonaa ama uu guursadayba caaisha radiallahu tacaala canha waa ina abibakar radiallahu tacaala canha. waa sidiiqa bintu sidiiq, waa sidiiqad sidiiq uu dhalay, waa sidiiqad sidiiq uu dhalay. yaad u jeceshahay dadka baa la yidhi. caaisha buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam, raggana yaad u jeceshahay? qaala abuuha, heed ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. saa darteed abuubakar qiimaha iyo wanaaggaasuu ku socdaa. waan arki doonaa gebagabada mar allaala marka khaliifada horto iyo mar allaala marka ilaahay subxaana wa tacaala inta nebiga dhinto asaga uu la wareega meesha, halyeynimada, geesinimada, shujaacnimada, sida uu u samayn doonay arrimooyinka faraha badan ee diinta uu u qaban doono iyo muslimiintaba. xaaladda noocaasa xaalad aad iyo aad u qiimo badan bay noqonaysaa. idan abuubakar ilaahay ha ka raadi noqdee waa khulafaa'u raashidiin, ninka ugu horeeya ayuu markaa ka mid yahay. sababtuna waxay tahay calaamaad fara badan oo aan arki doonno oo ilaahay ama nebigaba u tilmaamay inuu asaga u qalmuu markaa yahay. abuubakar wuxuu ka mid ahaa saxaabada ilaahay, saxaabada nebiga midka loogu jecel badan yahay. waa bacda rasuul sala allahu calayhi wasalam ummadda ninka ugu qiimaha iyo fadliga iyo wanaagga badan waa abuubakar radia allahu tacaala canhu. waa ummadda nebiga ninka ugu naxariista badan waa abuubakar radia allahu tacaala canhu. dadka oo dhan iimaankooda haddii inta kaf miisaan la saaro, abuubakar keligii iimaankiisa inta lasoo qaada kafka kale miisaanka la saaro lamaalad bihinna, way la ilanaysaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. ummadda oo dhan iimaankooda iyo waxooda oo dhan haddii meel saa loo wada saaro hoos buu markaa u noqonayaa. maca daalika waxaan soo tilmaanay hadda mar allaala markaan bilaaweynay tilmaantiisa inuu ahaa nin khafiif ah, inuu ahaa nin naxiifuljismi ah, nin caataa inuu ahaa. sidaa darteed buu maalin rasuulku yidhi qof kastoo isaarkiisii macawistiisa dhulka ku jiida oo hoos u dhiga ilaahay ma fiirinayo subxaana wa tacaala. ilaahay il naxariisa ku fiirin maayo. wuxuu ka mid yahay dadka maalinta qiyaamo mataqaanaa dhibaatada iyo cadaabka markaa iska leh. wixii aanqowga ka hooseeya fafiya naar. abuubakar waa yimid, rasuulkuu arrintaa u sheegtay una tilmaamay, uuna yidhi rasuulka ilaahayow anigu waa kibirna uma sameeyo, ilan waa calool yar yahay. markaasay macawistii siibanaysaa, macawistii hoos bay usoo dhacaysaa, macawistii mar walba waa celcelinayaa ilaa yatacaad. inaan la balballamo maahane, inaan saas u hay, xataa hadduu suu xirto hoostay ka dusaysaa, hoostay ka baxaysaa. waa tabardarada darteed. saa darteed baa haddii la saaro mataqaanaa camalkiisa iyo iimaankiisa, ilan waa iimaan qawi ah, waa iimaan xoog badan, waa iimaan culus oo adag. haddii kaf miisaan la saaro ummadda ka soo hartay oo dhan camal iimaankooda, haddii kaf kale la saarana way la ilanaysaa buu dhahay oo hoosay markaa la aadaysaa. markuu rasuulku saa ugu sheegay ayuu yidhi adigu ka mid metihid dadka khuyalka iyo kibirka u samaynaya abibakarow. dadka khuyalka iyo kibirka u samaynaya markaa ma tihid. intaa wixii ka dambaysa abibakar magaaladii madiina ayay u soo guureen, meeshay maanta degan yihiin asaga iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam. abibakar in allaala intii saxaabaa ee soo hijrootay meeshaasaa markaa laysugu tegay. meeshaasaa marka waxaa laga bilaabayaa oo laga aas-aasayaa dowlad islaami ah. waxaa la aas-aasayaa tababar fara badan oo muslimiinta loo galo oo loo furo. waxaa lagu aas-aasayaa tacliim fara badan oo loo sameeyo. jiil bay noqon doonaan lasoo barbaarinayo, jiil bay noqon doonaan lasoo bixinayo. khaasatan abuubakar oo nebiga aad ugu dhow sala allahu calayhi wasalam, sida loo barbaariyey ayuu wax u barbaarin doonaa, sida loo hagay ayuu wax u hagi doonaa, sida diinta loo tilmaamay in wax loogu qabto yuu wax ugu qaban doonaa abuubakar radia allahu tacaala canhu. meesha tacaala kasii ambaqaadi doonaa abibakar oo magaaladii madiina jooga. wixii meesha uu ku qabtayna waanu arki doonaa haddii rabbi idma. ilaahay baanu ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo, khayrkii wanaagana markaana tuso. wabilaahi towfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku jirnay khulafaa urashidiin ka hadalkooda. waxaanu wax ka soo tilmaannay abubakar iyo qaybtiisii koowaad. waxaa noogu soo dambeysay asagoo nebiga la soo halgamay, rafaad iyo dhibaatana la soo maray magaalada maka. intaa ka bacdina lugahooda ay ku soo baxsadeen, godna ay sala allahu calayhi wasalam. intaa ka bacdi dhowr maalmoodnay ka soo baxeen oo magaaladii madiine ay soo galeen. mar allaala markay magaaladii madiine ay soo galeenna abuubakar iyo bilaalba ay ku xanuunsadeen iyo saxaabo fara badan. caaishana radia allahu tacaala canha ay u timiday booqanaysay subax kasta, xanuunkoodana ay rasuulka u sheegtay sala allahu calayhi wasalam. nebigana uu yidhi, ilaahayow waxaad lacano dusha ka saartaa shaybat ibnu rabiica iyo wa cuqbat ibnu rabiica ibnu khalaf, say nooga soo bixiyeen dhulkeennii oo ay noogu soo bixiyeen dhul waba iyo cudur badan. intaa ka bacdina rasuulku wuxuu yidhi, ilaahayow magaalada madiinana jeclaysii sida aan maka u jecleen iyo si ka daranba. koombadeeda, suuskeeda iyo madaalkeedana ilaahayow noo barakeey. juxfana naga gey xanuunka iyo qandhada iyo dhibaatada markaa ay leedahay. intaa ka bacdina ilaahay wuu u ajiibay subxaana wa tacaala. magaaladii madiina la soo degay. markii magaaladii madiina la soo degay, arrimooyinka ugu waaweyn ee nebiga uu bilaabay inuu sameeyo waxaa ka mid ahaa iswalaalayn. mar allaala markii nimankii reer muhaajiriina ay yimideen, ansaar baa lala maalin maalmaha ka mida ayuu arkay nebiga abuubakar iyo cumar oo isla socda. markaasaa wuxuu ku yidhi, labadan ma u jeediin kuhuulada iyo garmadoobayaasha jannada oo min alawaliina waalaakhiriin ayay madax u yihiin. dhallinyaradooda, garmadoobayaashooda ilaa nebiyaasha iyo mursaliinta maahane. abuubakar ilaahay ha ka raalli noqdee markii magaalada madiina la yimid, nebiga ayuu garab istaagay. dacwadii iyo diinta ayuu la waday. wax walba oo dhibaato ah iyo wax walba oo soo marana waa u adkaysanayay. wuxuu rasuulka kala qayb galay dagaalkii beder iyo kii uxud iyo wax allaala wixii mashaahid ahaa oo dagaalo ahaa oo nebiga markaa uu galay. abuubakar ilaahay ha ka raalli noqdee maalintii uxud oo ay muslimiintu faydmeen, oo ay muslimiintu qaar ka mida carareen, waxa uu ku jiray dadkii ayaga sugnaaday oo nebiga la joogay, oo nebiga difaacay, oo nebiga aan ka cararin sala allahu calayhi wasalam. waxaa loo dhiibay raayadii iyo calankii weynaa wuxuu in badan lahaa munaaqaab iyo sharaf aad iyo aad u gooni ah, mawaaqif fara badan iyo khisaal xamiide ah iyo sifooyin fiicfiican ayuu ku sugnaa abuubakar. maalkiisa oo dhan waxa uu ku bixiyey fii sabiiliillaah. wuxuu u dulqaatay shadaa'id kasta iyo dhibaato kasta oo muslimiinta soo food saartaa, ilaa rasuulka maalin uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, innahu laysa min annaasi axad, dadka qof ka mid ah kuma jira iiga mana sheegasho badan dushayda nafsadiisa iyo maalkiisa abuubakar radia allahu tacaala canhu. abuubakar intii magaalada madiine la joogay, rasuulku aad buu u jeclaa. wuxuuna guursaday gabadhii abibakar uu dhalay oo caaisha radia allahu tacaala canha. sidoo kale waan arki doonnaa, cumar baa ku xigi doonee, xafse ayuu ka guursaday nebiga. cihmaan iyo calina gabdhihii asaga uu dhalay ayuu u guuriyey. afarta khulafaa u raashidiinba waxaa kala dhexeeya silla iyo xiriir iyo xididnimo iyo qaraabanimo iyo guur, ka sokow waxyaabaha kale ee diinta islaamka jirtaa. taasaa usii dheereed. abibakar caaishuu ka guursaday. cumar ibnu khitaab oo khulafaa u raashidiin ka mida waan arki doonaa, waxa uu ka guursanayaa mataqaana xafsa. cihmaan wuxuu u guurin doonaa ruqyo oo mukaltuum. calina faadimo ayuu nebiga u guuriyey. xaaladahaasoo dhan marka waxaan ka fahmaynaa xiriirka weyn ee ka dhaxeeya iyo waxyaabaha taraabidka ah iyo xididnimada khulafaa u raashidiinta
iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam. mararka gobol ka mid ah wuxuu u tafsiiri jiray amase uu u dhiibi jiray xilalkaa gaaban. nebiga abuubakar intuu noolaa ay ka mid tahay inuu salaada ka bixiyo dadka markuu nebigu maqan yahay. maalintii ay dhacday reer bani camar ibni coof inay dagaalameen oo nebiga heshiisiintoodii uu aaday oo meeshuu ku soo xabismay, bilaal ayaa abuubakar u yimid. markaasuu yidhi yaa abaabakar, nebigiina wuu baxay, reer bani camar ibni coof oo dagaalamay inuu heshiisiiyo, waana xabisan yahay oo weli ma imaanin. ma arkaysaa inaad dadka dejiso ood imaam u noqoto? nacam buu yidhi in shi'ta. waa tii bilaal uu aqimay, abuubakarna salaaddii uu galay, oo ayadoo salaaddii markaas uu xirtoo la bilaabay nebiga uu yimid oo safka koowaad uu nebiga soo istaagay. dadku waxay gudaan inay sacabka garaacaanay gacmaha isku garaacaan si abiibakar loo baraarujiyo oo loo tusiyo inuu abuubakar laa yaltafit, midaan meel milicsanin markuu salaada ku jiro, meel ma fiirin jirin. laakiin markay dadka maalintaas sacab garaacii badiyeen, gadaal buu soo fiiriyey. isla markii nebigu arkay oo safkii taagan, markaasuu nebigu u ishaaray, meeshaada joog, meeshaada iska joog buu yidhi. laakiin abuubakar gacantuu kor u taagay, ilaahay buu mahdiyey, gadaal buu u soo noqday, nebigaa hor maray oo dadkii dujiyey. markii salaaddii uu ka baxay ayaa wuxuu yidhi, dadka maa sha'nukum, war maxaa xaaladdiinu ay tahay oo markaad arrin aragteen aad sacabka u garaacdeen? inama tasfiiqu linnisaa, sacab garaaca dumarka iska leh. haddii wax dhibaataa salaaddu ay ku soo dhacdo waxaad dhahdaan allahu akbar, subxaana allah. waayo qofku markuu maqlo subxaana allah wuu intibaahayaa. abuubakar maxaa dhacay wakhtigii gacanta aan ku ishaaray oo aan ku idhi joog meeshaada aad u joogi weysay? abuubakar wuxuu yidhi ibnu abi quxaafa asuu iskula jeedaa, owla uma aha oo uma bannaana inuu nebiga hortiisa dadka ku tujiyo. waa calaamaad tusinaysay nebiga oo nool in la tababarayay abuubakar radia allahu tacaala canhu. maalin maalmaha ka mid ah asaga iyo nebiga oo ka soo laabtay uxud ayaa nin u yimid rasuulka. markaasuu dha rasuulka ilaahayow riyaan arkay xalay, waxaan ku riyooday daruur oo cirka saas u taagan oo soo tifqinaysoy ka soo da'ayso subag iyo malab. waxaan arkay dadkii oo yatakafafuuna minha, gacmo horsanaya. subagii iyo malabkii daruurta ay qubaysay soo daadinaysay yay dadka qaadanayeen. falmustakthir waalmustaqil, dadna wax yar bay la qaadanayeen, dadna wax yar. waxaan arkay buu yidhi riyadii xarig laga soo taagay cirka. xariggii cirku saa uga soo taagan yahay, adigii oo nebiga ahaa xariggii baad qabsatay, waad kortay cirkii, facalowt. haddana nin kalaa yimid, xariggii buu qabsaday, wuu koray. nin saddexaad baa yimid, wuu qabsaday, wuu koray. nin afaraad ayaa yimid, markuu saa u qabtay xariggii fanqatac, xariggii waa soo go'ay. markuu soo go'ay ayaa mar labaad haddana loo soo raariciyey. ninkii wuu qabsaday, haddana wuu sii koray. ee ii fasir. ninkii markuu sidaa yidhi, abaabakar baa yidhi dacnii acbirha yaa rasuul allah, iidaa tan anaa fasiraaye rasuulka ilaahayow, fasirba abuubakarow. wuxuu yidhi daruurta saaran cirka waa islaamnimadii. waxyaabaha ay soo tifqinaysay soo da'aysana waa wixii adiga aad la timid ee hanuunka iyo qur'aanka iyo cilmiga ah. mustaqilkii mustakthirka dadkaa kala qaadqaadanaya in yari in badanna waa sida loo kala iimaan badan yahay iyo sida diinta loo kala baranayo. ninna in badan buu bartaa, ninna in yar buu bartaa. adigii waad kortay, nin kalaa koray, ku saddexaad baa koray. xariggaa waa islaamnimadii, meesha kor loo koraayana waa khayrkii iyo wanaaggii. ee yaa rasuulallah ma cabiray. rasuulku wuxuu yidhi akhta'ta bacdaha, abuubakarow qaarna waad geftay, qaarna waad asiibtay. markaasuu yidhi intii aan gefayey intaan asiibay ii kala sheeg. ma kuu sheegaya buu dhahay nebiga sal alla alayh wasalam. markaasuu yidhi iqsim billaah, ilaahay baan kugu dhaariyay yaa rasuulallah, iyo cabiroo ii sheeg. ha ii dhaarinin buu dhahay rasuulka sal alla alayh wasalam. marka meelaha waxaad ka fahmaysaa in abibakar uu nebigu tababar ku haayey intii magaalada madiina markaa la joogay. aad buu u khayr badnaa abuubakar. cali bn abi aalib wuxuu yidhi, alaa ina abaabakar muniibu lqalbi, waa nin qalbigiisa muniib ahaa, qalbi noqosho badan ayuu lahaa. abuubakar wuxuu yidhi waxaan jeclaysan lahaa inaan noqdo shacratan fii janbi cabdin mu'min, hal tin oo ku taala addoon mu'mina dhinaciisa. yaa laytanii, shallaytadaydii maxaan u ahaan waayey geed ay xayawaanku cunaan, geed shajar tacdud uma ta'kul, baxay oo haddana la cunay, si aan qiyaamo lay qabsanin.
xaaladahaasoo dhan abaabakar waxay tilmaamaysaa sow ilaahay ugu dhowaa subxaana wa tacaala, khayrka iyo wanaagga uu u samayn jiray. abuubakar wuxuu lahaa baa layidhi mamluuk, addoon, waxbuu u soo qaraabi jiray. maalin maalmaha ka mid ah ama habeen habeennada, isla markii abuubakar tacaamkii loo keenay fatanaawalahu min wuu cunay, luqmad buu ka qaatay. addoonkii baa wuxuu yidhi maalak, maxaa dhacay? habeen kasta wax aan kuu keen waad i weydiin jirtay, xaggeed ka keentay? intee ka soo shaqaysay? xalaal miyaa? waad i weydiin jirtay. walam tas'alnii alleyl, caawa ima weydiinin, caawa ma i weydiin, waad iska cuntee, maxaa dhacay? abuubakar wuxuu yidhi xamalanii calaa daalika aljuuc, baahi baa igu xambaartay buu yidhi, caawa aad baan u baahnaa, wuuna soonnaa. min ayna ji'ta bi haada, xaggee ka keentay waayahe? waxaan soo maray buu yidhi qoom wakhtigii jaahiligan wax u tufay, markaan u tufay kabacdi bay i wacdiyeen, ballan ii dhigeen. caawaan soo maro wixii ay riwaayad kale waxay tidhi kahaano ayaan u sameeyey, macnaha faal ayaan u sameeyey. markaa kabacdi baa dayn aan ku lahaa bay iga soo siiyeen, waa midka aad cuntay. abuubakar wuxuu yidhi uffin lak kidta tahlakanii, uf baa kuu sugnaaday io qurun, waxaad isigtay inaad i halaagto. gacanta ayuu afka geliyey ilaa dhuunta uu gaaray. wuxuu guda galay inuu soo matajiyo wax allaala wixii ku tegey oo caloosha markaa u galay. wax baa soo bixi waayey, ma bixin karo ilaa in biyo lagu shubo maahane. biyuu soo qaaday, biyuu ku shubay, wuu cabay in yar, markaasuu haddana afka geliyey, wuu soo bixiyey wax allaala wixii markaa ku jiray. markaasaa loo yidhi yarxamuka allah, abuubakarow ilaahay ha kuu naxariisto, waxaan oo dhan ma waxaad u samaynaysaa luqmad afka? kaasuu abuubakar yidhi wallaahi haddaysan soo saari lahayn ilaa inay nafsadeyda ay soo baxday aan dhinto, ayadana ay soo raacdo, ilaa heerkaas aan gaaro waan samayn lahaa buu yidhi. waayo rasuulkan ka maqlay asagoo dhahaya jasad walba oo ka soo barbaaray min suxtin xaaraan fannaaru awlaa bihi, naartaa ku awliyeysan in lagu rido. waxaan ka cabsaday cadkaas yar ee i galay luqmada in jasadkayga ay la korto oo hadhow ma'wadkaygu uu naarta markaa noqdo, taasaan ka cabsaday buu yidhi. manaaqib fara badan oo aan la soo koobi karin ayuu abuubakar lahaa. wakhti nebiga uu jibriil la fadhiyo maalin maalmaha ka mid ah, abuubakar baa meesha soo maray. markaasuu jibriil yidhi haadaa abuubakar, maxamedow abuubakar waaye, meeshaan buu marayaa. markaasuu rasuulku yidhi atacrifuhu yaa jibriil, jibriilow abuubakar ma taqaanaa? qaala nacam, haa, waayo samada ehelkeeda ayaa ka garasho badan dadka arlada jooga. dadka dhulka jooga garashada ay abuubakar yaqaaniin waxaa ka shuhursan oo ka caansan ogaashaha iyo aqoonshaha ay dadka samada degan waa malaa'igtee ay u leeyihiin. weliba malaa'igtu waxay ku magacaabaan abuubakar xaliimu quraysh, quraysh dulqaadahoodii, kii xaliimka ahaa quraysh. wa inahu wasiiruka fii xayaatik, abuubakar waa wasiirkaagii xagga nolosha, iyo wa khaliifaka bacda mowtik, markaad dhimato kii ku bedeli lahaa khaliifkaaga waayaa loo yidhi. maalin asaga iyo mataqaanaa asaga iyo nebiga andhehe iyo abuubakar iyo cumar ayaa waxay koreen jabal uxud. markay saas ugu istaageen ayaa jabal uxud dhaqdhaqaaqay, waa ruxruxday. markaasuu rasuulku lugta ku dhuftay jabal uxud uu yidhi uthbut yaa uxud, uxudow sugnow, macnaha aamus buu yidhi, ha dhaqdhaqaaqin, dhaaf xarakaadka iyo taxriigga iyo waxyaabaha aad samaynayso. riwaayad kale wuxuu ku yidhi nebiga ma xishoonaysid miyaa uxudow? waxaa ku saaran nebi iyo saaxiibkiis iyo shahiid. nebigu waa nebiga, saaxiibku waa abuubakar, shahiidkuna waa cumar ibnu khitaab. waa arki doonaa markaan qisadiisa gaarno suu u shahiiday. uthbut sugnow, dhaaf xarakada, dhaqdhaqaaqa jooji. lugtuu ku dhuftay nebiga jabal uxud. xishood ma lihid miya? ma sariiganaysid miya? jabal uxud muxuu u dhaqdhaqaaqay? wuxuu la dhaqdhaqaaqay maxabo iyo shooq iyo hilow iyo jacayl uu u qabo nebigii saarnaa iyo abuubakarna sidiiq iyo cumar radia allahu tacaala canhu. saa darteed waatuu nebigu intuu uxud meel dheer ka arkay uu yidhi haadaa uxud, kani waa jabal uxud, waa jabalna jecel annaguna aan jecelnahay buu dhahay sala allahu calayh wasalam. marka intaasoo dhan waxay tilmaamayaan
abubakar radia allahu tacaala canhu khayrka iyo wanaagga iyo waxyaabaha faraha badan iyo waxyaabaha manaqabadaha sharafta goonida lah ee uu ku leeyahay nebiga agtiisa sala allahu caleyh wasalam abuu muusa alashcari muxuu yidhi maalin baa waxaan is idhi nebiga waardiye u noqo bi'ru ariis albaabkaa lasoo gargaraacay markaasaan idhi yaa waay waa abubakar meeshaada joog nebigii baan u tegey yaa rasuulallah waa abuubakaroo albaabkii garaacaya i'din lahu wabashirhu biljanna u idin jannana ugu bishaaray buu yidhi rasuulka sala allahu caleyh wasalam macnaha jannana waa loogu bishaareeyey waana loo idmay marka saa darteed abubakar radia allahu tacaala canhu sharaftaa goonida ah iyo khayrkaa faraha badan ayuu ku lahaa islaamka ahaa mid saaxiib samaysanaya buu yidhi nebiga abubakar baan saaxiib ka dhigan lahaa albaabka masaajidka albaabka mid ah yuusan furnaanin ilaa hala oodo oo hala daboolo ilaa abubakar baabkiisii maahane abubakar albaabkiisii maahane maalin maalmaha ka mid ah nebiga inta badan wuu la tashan jiray abubakar mar allaala markii ay dhacday khaswatu beder lana soo qabsaday nimankii gaalada ahaa ee mataqaanaa mushrikiintii laga soo qabsaday dagaalka nebigu wuu la tashtay abubakar iyo cumar abubakaroo maxaan ka samaynaa buu yidhi abubakar wuxuu yidhi ahelkeenii waaye rasuulka ilaahayow dilkoodana wax qiimo ah uu noo dhaaf oo noo anfacayo ma jirto xoolo aan dhaafsiisano oo xoolo aan ku furano intaan iska sii dayno aan iska dayno xoolo aan dhaafsiisano ilanbaalkeenii bay naga soo bixiyeen ehelkeeniyay naga soo bixiyeen anigu saasaan dhihi lahaa buu yidhi cumarow ka waran buu yidhi adigana raggan maxaan ku samaynaa rasuulka cumar wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayo waa acdaa ilaahay waa cadow diineed wayna soo bixiyeen inaan waddankeenii aan degenin alla si saani aan ugu caabudnana way noo diideen anigu waxaan arki lahaa wax naxariisa inaan loo samaynin oo dhammaantood qoorta laga gooyo buu yidhi cumar radia allahu tacaala canhu weli intaasi waxaan kugu sii dari lahaa qofba qofka qaraabanimo ugu dhow ha loo dhiibo cabbaasaa ku jira raggii lasoo qabtay cid kaa xigta ma laha adaa qoorta ka goynaya nin aniga aan qaraabanaho abtigay baa ku jira anaa qoorta ka goynaya muscab ibnu cumayr walaalkii baa ku jira asagaa loo dhiibaa qoorta ka goynaya si ay noo dareemaan gaalada oo ay noo arkaan wax taraxum ah iyo wax tollaysi ah iyo wax isku soo dhowaashaa inaysan naga dhexaynin taasaan arki lahaa xaaladaasaan arki lahaa buu yidhi cumar radia allahu tacaala canhu laakiin nebigu wuxuu u janjeersaday ra'yigii abubakar in xoolo la dhaafsado markaasaa waxaa soo degtay maa kaana linnebiy nebi uma bannaana an yakuuna lahu asraa inuu qafaal yeesho xataa yuthqinna fi lard ilaa meydka gaalada dhulka la daadiyo la tabar dhigo iyakoo dhan ay dareemaan dhibaatada muslimiinta in mataqaanaa maxabbo xaggooda aysan markaa u dhexaynin see qafaal u qaadanaysaan see xoolo u furanaysaan turiiduuna carada adunyaa xoolo adduun maad doonaysiin buu yidhi ilah subxaana wa tacaala wallahu yuriidu alaakhira ilaahay aakhiru idinla rabaa wallaahu casiizun xakiim ilaahay waa alla casiis ahoo xikmad badan lowlaa kitaabun min allahi sabaqa kitaab horay u dhacay hadduusan jiri lahayn lamasakum fii ma akhadtum wixii aad qaadateen oo lacag ah waxaa idinka taaban lahaa cadaabun cadiim buu yidhi ilaahay ee fakuluu mima iska cuna hadda abubakari cumar iyo nebiga way ooyeen markay aayadda soo degtay aayaddu waxay tilmaamaysaa maxaa ra'yigii cumar loo qaadan waaye maxaa gaalada loo baabi'in waaye maxaa qoorta looga goyn waaye dhammaantood see u qaadanaysaan islaam cusub oo bidaaya tihiin gaaladu maxaa maxabbo idinka dhexaysaa lowlaa kitaabun min allahi sabaqa lamasakum fii ma aqadtum cadaabun cadiim cumar waa u yimid subaxii markaasuu yidhi maxaa u ooynaysaan markaa kadib buu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala in nebigu u sheegay cumar in aayadahan la soo dejiyey oo ra'yigii cumar in la qaata go'aan ahaan uu fiicnaan lahaa taasuu markaa ilaahay tilmaamay markaasuu rasuulku yidhi arxamu ummatii ummaddeeda waxaa u naxariis badan biabi bakar ama abubakar abubakar ayaa u naxariis badan ummaddayda saasuu markaa yidhi waayo mar allaala marka la fiiriyo abubakar iyo cumar waxaad u kala dhigan tihiin buu yidhi nebi ciise markuu yidhi in tucadibhum fa inahum cibaaduka haddaad cadaabto waa addoommadaada haddaad iska dhaaftana casiis xakiima ayaa tahay cumarna wuxuu la mid yahay nebi muuse rabbana tmis amwaalahum
washdud calaa quluubihim ilaahayo maalkooda ku halaag oo ku tirtir qalbiyaalkooda xir falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim marka cumar abubakar waa ummadda nebiga ninka ugu naxariista badan ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu ummaddeedaasaa ugu naxariis badan buu yidhi waxaa shaq camal looga dhigay oo madax looga dhigay abubakar amiir looga dhigay xajka sannadii 9aad waayo nebiga sannadii 10aad buu xajin doonaa xajatulwadaac sannada 9aadna waxaa loo diray abubakar sababtu waxay tahay aahaarta jaahiliga ayaa ku jirtay mushrikiinta way soo xajin jireen dumarka iyo raggu markay yimaadaan ayagoo qaaqaawan ayay tawaafi jireen waxaasaa la rabay marka in laga nadiifiyo waxaa loogu talagalay in lagu dul akhriyo mushrik wixii ka dambeeya sanadkan wixii ka dambeeya inuusan soo xajin karin walaa yatuufu bilbeyti curyaanan nin qaawanna inuusan kacbada tawaafi doonin xaaladaasaa la soo dejiyey sidaa darteed baa ilaahay wuxuu soo dejiyey baraa'atun min allahi wa rasuulih beri ahaashadaasaa la ogeysiinayey oo loo sheegayey gaalada ilaa ilaahay uu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun mushrikiintu waa najaaso ee falaa yaqrabu almasjid alxaraam masaajidka xurmada leh yaysan u soo dhowaanin bacda caamihim haada sanadkan wixii ka dambeeya buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala markay yimaadaan waxoogaa bay muslimiinta ka helheli jireen wixii qaraabe ay yihiinna waxbay ku tuurtuuri jireen markaasuu muslimiintu waxay ka cabsadeen haddii mushrikiintii gaaladii loo diiday inay xaramka soo galaan yaa waxna siinaya wain qiftum cayla buu soo dejiyey ilaahay haddaad fakri ka cabsateen fasawfa yugnihum allahu min fadlihi ilaahay baa idin deeqi doona subxaana wa tacaala laakiin mushrikiintu waa nijaaso mushrikiintu waa wasakh mushrikiintu faa'iidii qiimo ma laha qalbiga ayay waxay ka yihiin dhibaato iyo nifaaq iyo gaalnimo iyo wax noocaas oo kale ah ha soo dhowaysanina marka abubakar baa loo diray sanadkaa asaga ayaa meesha hogaaminayey asagaa xajka amiir ka ahaa saa darteed ayaa xajkii kaanad fil islaam ahaa xaaladiisay sidaa ahayd abubakar wuu soo sifeeyey sidaa darteed baa la ogeysiiyey mushrikiintana wax ballan oo ayaga iyo ilaahay u dhaxaysay inaysan markaa jirin baraa'atun min allahi wa rasuulihi yay u socotaa beri ahaashada ila aladiina caahadtum min almushrikiin intii aad la ballanteen oo mushrikiin ah fasiixuu fi lardi 4 ashhurin 4 bilood meeshaad doontaan mara buu dhahay ila subxaana wa tacaala fasiixuu fi lardi 4 ashhur waaclamuu annakum hayru mucjizi illah ilaahay ka baxsan karin wa ana allaha muqzi lkaafiriin ilaahay gaalada kii hoojinaya inuu yahay waadaanun min allahi wa rasuulihi ila annaas waa iclaan waa aadaan waa ogeysiis ayaa la bixiyey waa xilligii abubakar ka yimid ilaah iyo rasuulkiisa yay u yowma alxaji alakbar ana allaha barii'un min almushrikiin ilaahay mushrikiinta oo dhan inuu beri ka yahay asaga iyo warasuuluhu rasuulkiisaba fain tubtum fahuwa khayru lakum haddaad tooba keentaan way idin fiicantaod islaamtaan wain tawallaytum faaclamuu annakum hayru mucjizi illah wabashir aladiina kafaruu bicadaabin aliim waxaa soo degtay suurad cajiib badan oon bisin lahayn oo gaalada col iyo cadaaba u tilmaamaysa oo seef tilmaamaysa oo dhibaato tilmaamaysa oo gaalada iyo muslimiinta inaysan waxba u dhexayn tilmaamaysa yuu ilaahay ku soo dejiyey abubakar ayaa loo dhiibay asagaa iclaamiyey xajkii oo nadiif ah ayaa sanadkii 10aad nebiga uu tegey sala allahu calayhi wasalam marka abubakar hawshaana waa loo dhiibay markuu nebigu xanuunsaday sala allahu calayhi wasalam xanuunkiina uu ku darnaaday oo masaajidkii kari waayey inuu aado wuxuu yidhi muruu abaabakar falyusalli binnaas abaabakar amra dadka ha tujiyo caaisha waxay rajul raqiiq ah waa rajul raxiim ah waa rajul rafiiq ah waa rajul calool jilcan hadduu maqaamkaaga istaago dadka qirada ma maqalsiin karo waxaa qaalib noqonayo oohin baa ka qaalib noqonaysaa ka bedel markaasuu rasuulku ku celiyey war abubakar amra ummadka dadka ha dujiye war iga daaya hadalka waxaad la mid tihiin sawaaxibihii yuusuf saasuu markaa rasuulku yidhi mar allaala markii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxoogaa khifa uu dareemay oo masaajidka la keenay abuubakarna uu damcay uu dadkii dujinayey uu damcay inuu dib u soo ta'ahuro nebiga meeshiisa wuu isha u taalmaamay inuu istaago nebiga dhinacii abuubakar baa la fadhiisiiyey sala allahu calayhi wasalam saasuu abuubakarna salaaddii nebiga ugu dayanayey dadkuna ay ku dayanayeen
salaadii abubakar markuu nebigu dhintay sala allahu calayh wasalam. jawigii waa isbedelay, dadkii waxaa ku dhacay iltiraab, dadkii waxaa ku dhacay maskax wareer, dadkii waxaa ku dhacay khaas ahaan cumar ibni khitaab oo ninka kan ahaa oo nin adag ahaa maalintaa kaalintii loogu talagalay kama soo bixin ilaa uu hanjabay ee uu yidhi qof kasta oo yidhaahda nebiga waa dhintay qoortaa laga goynaa, waa la dilaa. inaan kow ka siiya waay, nebi maxamed ma naga dhimanin, wuu baxay sida nebi muuse u baxay oo kale, wuuna noo soo noqon doonaa, mana dhiman doona ilaa munaafiqiin uu wada baabi'iyo. xaalku markuu meeshaa maraya abubakar baa maalintaa sugnaaday, waa yimid, wuxuu dhunkaday nebiga sala allahu calayh wasalam. cumar buu la hadlay inuu fadhiisto, cumar waa diiday. intaa wixii ka dambay istiftaax buu bilowday, wuxuu yidhi war hooy i dhegaysta, qof kasta oo ilaahay caabudi jiray ilaahay waa xayi subxaana wa tacaala. qof kastaoo moxamed caabudi jiray iyo nebi moxamedna nebi moxamed wuu dhintay. wuxuu akhriyey wamaa muxamedun ilaa rasuul qad khalad min qablihi rusul. haba naxaakii mowqif buu qaatay maalinta abubakar radia allahu tacaala canhu. nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu saa u dhintay ayaa waxaa la gudagalay markaa in la sameeyo khilaafo cusub, khulafaa raashidiin. meeshaasay markaa ka bilaabatay saqiifadii reer bani saacida. waa reer bani saacida ee xaafadoodii ayaa waxaa lagu sameeyey madaxtinimo iyo khaliifnimo in la doorto. abubakar radia allahu tacaala canhu iyo cumar iyo waa muhaajiriin. nimankii reer ansaareed markii ay maqleen in nebi moxamed dhintay isla markii waxayba ku aruureenba reer bani saacida xaafadoodii say ayaguna amiir u doortaan. waxay dheen muhaajiriinna amiir ha lahaadaano, ansaarna amiir gooniya ha lahaato. waxoogaa khilaaf yar baa meeshii ka dhici rabay, laakiin ilaahay baa badbaadiyey subxaana wa tacaala oo abubakar baa calaamaad fara badan lagu arkay taasoo tilmaamaysa inuu owle u yahay. cumar wuu la hadlay nimankii reer ansaar, war see waaye buu yihi, war nebigii oo nool idin tujiyey ka warrama. nebigii oo nool nin hortiinii mataqaanaa tujiyey oo imaam idiin noqday, miyaan qadiifada owle markaa ku ahayn? abubakar baa alxaasil la doortay inuu asaga hogaamintii qabto. magaalada madiina khilaafadii abubakar baa gacanta loo geliyey, isla markii madax laga dhigayna khudbad cajiib badan oo gaaban ayuu akhriyey. madaxda marka la doorto way khudbeeyaan, khudbada ay khudbeeyaanna waa khudbo yar oo gaaban oo inta xilliga la doortay ah. khudbada weynna way dhiman tahay. abubakar muxuu yidhi, yaa ayuhannaas, wardadow, aniga ayaad i doorateen oo dushiinna madax la idinkaga dhigay, walastu bikhayrikum, ninka idinkugu fiicanna ma ihi buu yidhi radia allahu tacaala canhu. ani ma ihi ninka idinkugu fiican, waayo waa lay doortay. inta alla waafaqo, haddaan khayr anoo ku socday aragtaan faaciinuunii i gacan siiya, igu kaalmeeya, ii gacmo haadiya, i soo dhoweeya. waa haddaad ixsaan iyo wanaag iyo khayr igu aragtaan. wain asa't, haddaan xumaado, haddaan joor falo, haddaan dhinac u leexdo, haddaad i aragtaan anigoo manhajka iyo diinka iyo xaqa iyo sunnada ka leexanaya, faquumuunii iga istaaga, ha ii sacbinina. madaxda waxaa dhibaatada gaarsiisataa waxay tahay markay iishaan dadba u sacba tuma oo aan dhehin war qalad baad ku taagan tahay joog. marka abubakar khudbadiisii wuxuu yidhi, war anaad i doorateenoo madax laydinkaga keen dhigay dushiina, mana ihi ninka idinkugu fiican, ninka idinkugu khayrka badan ma ihi. haddaan wanaagsanaado ikaalmeeya oo i caawiya, haddaan xumaadana iga istaaga. runtu waa ammaano, beentuna waa khiyaano. daciifka dhexdiina agta wixii lagu dulmiyey iyo xaqiisa aan u soo celiyo haddii ilaahay doono. ninka qawiga dhexdiina ka ah buu yidhi, agteyda waa ka daciif ilaa aan ka qaada xaqii iyo dulmiga uu dadka ka galay haddii ilahay ihahdo subxaana wa tacaala. qoomka ma tagaan jihaad lagu jihaada ilaahay jidkiisa ilaa ilaahay wuu hoojiyaa subxaana wa tacaala. kuma faafto faaxisho qoom dhexdooda ilaa ilaahay bale ayuu ku camimaa iyo cudur subxaana wa tacaala. atiicuunii maa atactu allah, war intaan allay rasuul adeecayay ateeca, intaan ilaahay iyo rasuul maqlaa i maqla idinkana. haddaan ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya falaa taacata lii calaykum ay ateecina. waa khudba muujis ah oo gaaban habeenkii la doortay abubakar radia allahu tacaala canhu. magaaladii madiina
mucdamkeedu waxay ahayd wakhtiyada caasimad dowladda islaamka ah, markaskii tawxiidka iyo futuuxaadka, nashriga islaamka. abuubakrn sidiiq ayaa khilaafadii qabsaday kabacdi. waa markay dhacday mudaawalaad iyo xiwaar isdhaafsiin bayna almuhaajiriin waalansaar, kuna dhacday saqiifadii reer bani saacida. acmaalihii abuubakar uu qabtay marka, camaladii abuubakar uu qabtay camalo waaweyn ayay ahaayeen. howl fara badan baa hortiilay abuubakar muddadii khilaafada uu haayay, inkastay iska yarayd. waa 2 sano iyo 3 bilood keliya ayuu ahaa amiirka ama khilaafada. waxyaabaha camalada ugu waaweyn ee abuubakar hor yiilay ee la xusi kara waxaa ka mid ahaa 1 inuu fuliyey ama uu meel marsiiyey jeyshkii iyo ciidankii usaama. waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waanu arki doonaa usaama uu diri doonaa inta uu noolaa. waa 1. midda labaad waa muxaaraba, uu la dagaalamaya murtadiintii ridowday. 3 qayb bay u qaybsamaayeen. qaybta koowaad waa qolo cibaadadii awthaanta isaga laabatay, qolo sheegatay nebinimo, iyo qolo islaamkii ku sugnaatay laakiin diiday inay sakada bixiyaan. waayo nebigaa la amray bay dhaheen, qud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim. u duceey. nebigii noo ducayn lahaa wuu dhintay, cidaan siinayna markaa ma laha. midda saddexaadna waxay ahayd waa qur'aanka ururintiisa, qur'aanka jamcintiisa. waa ninkii ugu horreeyey qur'aanka jamca, ninka lagu magacaabo abubakar. camaladaa xooga badan ee dhibaatada badan ee hor yimid ayuu tilaabay. waayo abubakar radia allahu tacaala canhu abubakar waxyaabaha hor yiilay ee isagoo wakhtigiisiina yaraa, waxyaabaha hor yiilay ee u samaynayey waxaa ka mid ahaa dadkaa ridoobay. arrintaasaa ka hor timid abubakar. waayo islaamka hadduu iska sii jiri lahaa, haddii sidii loogu talagalay uu wax u socday inuu wax badan qabto. weliba nebigu mar wuu riyooday, wuxuu ku riyooday baa la yidhi asagoo mataqaanaa meel wadaan ah ama meel ceela la shubaayo. abubakar baa yimid, shubitaankiisa waxaa ku jira ducfi, wadaan ama 2 wadaan buu soo daray, bas waa dhammaaday. cumar baa yimid ilaa dadkii ay horteen oo xoolahoodii ay furteen oo ay ka waraabsadeen oo waxyaabo fara badan oo meeshaa ku daaday. macnaha meesha waxaa laga cabirayaa ee khilaafada intuu haayay abuubakarna inay in yar ahayd, waxa hor yiilayna howl adag ay ahayd. xataa dad baa nebinimo sheegtay xilligiisii. cumar laakiin wuxuu ahaa xilli aad iyo aad ummaddu ay meel kasta futuuxaadkoodii wada gaareen, sida aan markaa arki doonno haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala. marka bacdamay xaaladdu sidaa tahay, abubakar hawsha ugu horeysay maxay ahayd? inuu fuishkii usaama ibnu zayd sannadii 11aad ee hijrada ayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam intuusan dhimanin wuxuu diyaariyey ciidan si loogu duulo ruum. ciidankaasi waxaa ku jiray abubakar oo askarta ka mid ahaa, cumar ibni khitaab, sacd ibn abi waqaas, abaa cubeydat ibnu jaraax iyo kayrkood oo min jallati asaxaaba, asxaabta kuwa ugu waaweyn ka mid ah ayaa markaa ku jiray. waxaa madax looga dhigay usaama ibnu zayd baan madax idinkaga dhigay, ee ha durina imaaradiisa. watuu nebigu yidhi, saad horay u durteen aabbihii imaaradii loo diray. aabbihii waa kee? waa zayd ibnu xaaritha oo aabbihii ah usaama. sidii markii hore aad u durteen oo kale markii ciidankii madaxda looga dhigay, saasoo kale ha yeelina. usaama ibnu zayd oo wiilkiisii ah ayaa maanta hogaamintii iyo jagadii iyo waxyaabihii kale aan u dhiibay, asaga ayaa mataqaanaa madaxdii noqonaye. aabbihii xaggee loo dhiibay? waxyaabo fara badan buu qabtay. waa xibooyinkii nebiga uu jeclaa asaga iyo wiilkiisiiba. sidaa darteed ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam mu'tou u diray. mu'ta markii la diraayey muxuu yidhi, calanka iyo raayada ha qaada ninka lagu magacaabo zayd ibnu xaaritha haddii la asiibo oo la dilo, jacfar ha qabta buu dhahay nebiga sal allau alayh wasalam. jacfar haddii la asiibo oo la dilana, cabdullaahi ibnu rawaaxa haddii la asiibana, mid uu naftiina ka doorta buu dhahay rasuulka sal allau alayh wasalam. yaa qabtay markii hore? waa zayd ibnu xaaritha.
asaa calankii qaaday, wuu dagaalamay, wuu jihaaday, aad iyo aad buu ula jihaaday gaaladii ilaa la dilay. calankii isla markii waxaa dafay ninka lagu magacaabo jacfar ibni abi aalib. jacfar ibni abi aalib labada gacmood baa laga goyn doonaa, gacantaanuu ku qabanaa, waa laga goynaa, takaluu ku qabanaa, labada cudud buu haddana isku keena uu ku qabanayaa ilaa la dilo asagana. mar allaala markuu dagaalkii gelayay, markuu dagaalka gelayay, abada aljannata waاkhtaraabuha طayibatan wabaaridun sharaabuha waruumu ruumun qad danaa cadaabaha kaafiratun baciidatun ansaabuha calaya id laaqaytuhaa diraabuha. asoo saa dhahaaya yuu jacfar galay. maxaa ka wanaag badan jannada? maxaa ka soo dhowaasho badan? waa tiib, waa tayib, wabaaridatun sharaabuha, sharaabkeeda waa mid tiib ahoo qabow. waruumu ruumun qad danaa cadaabaha, ruumna waa tii cadaabkeedii soo dhowaaday. waa kaafirad oo baciidatun ansaabuha, nasabkeedu naga fog yahay. calaya waxaa korkeyga ahaaday id laaqiituhaa diraabuhaa, seefta inaan kaga shaqayn ku garaaco. jacfar asoo saa dhahayo jihaadka mataqaanaa galay mu'ta. marka si kastaba ha ahaatee ninka lagu magacaabo usaama ibnu zayd, nebiga waa dira buu yidhi, waan diri doonaa, waxba ha ka sheegina ri'aasadiisa iyo maamulkiisa saad horey aabii u durteen oo kale. intaa wixii ka dambeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam zayd usaama ibnu zayd ayuu raggii madax uga dhigay. da'diisa ma dhaafin 20 jir, waa ka yaraa, ma gudbin, ama 20 buu jiray ama wax yar wuu ka yaraa. marka asoo jeyshkii diyaar garoobaya oo nebiga uu qalqaaliye uu diray yaa nebigii xanuunsaday marka sal alla alayh wasalam. nebiga markiisaa uu u jiraday oo xanuunkii uu ku darnaaday, ciidankii way istaageen, marka socodkii way joojiyeen ayagoo sugaya masiirka nebiga. see xaaladiisu noqon doontaa? nebigu inuu dhiman doono, inuu ka kici doono xanuunka? dib baa markaa loo dhigay. markii laakiin ay ku cuslaatay xanuunkii, usaama wuxuu yidhi waan soo jeesto, waan soo noqday, jeyshkiina way ila soo noqdeen, waxaan u soo galay nebiga sala allahu calayhi wasalam, waxaan helay qad samad asagoo af reebtay, nebigoon hadlayn oo aamusan ayaan u soo galay. waana xanuunka haaya dartii. intaa ka bacdi nebiga waan ag fadhiistay, wuxuu guda galay yarfacu yaddahu ila asamaa, inuu gacantiisa kor u taagayo. intaa ka bacdi xaggayga uu u soo leexinayo, waxaan gartay inuu ii ducaynayo buu yidhi rasuulka sal allau alayh wasalam. usaama inuu ii ducaynayaan fahmay. gacantuu kor u taaga, anuu igu soo ishaara, gacantuu kor u taaga, anuu igu soo ishaarayaa. waayo hadal fiicanoo markaa ka soo baxayay markaa ma jirin, oo xanuunkiiba aad ugu tiro badnaa. intaa ka bacdi maba daahinba rasuulku wuu dhintay sala allahu calayhi wasalam. baycadii khilaafadii abiibakarna way dhacday. abiibakar marka wuxuu fuliyey, uu amray in la fuliyo bacdadii iyo ciidankii usaama. laakiin koox ansaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen haliska daayaba bacdadan iyo ciidankan bacdamaa rasuulkii uu dhintay sala allahu calayh wasalam. weliba cumar ibni khitaab bay ka codsadeen oo ay dhaheen bax abuubakar u tag oo u sheeg inuu arrintan joojiyo. hadduu kaa diidane bal hanaga bedela usaama oo ninka da'weyn hanoo keeno, hanoogu bedelo. cumar wuu soo baxay, wuxuu u yimid abuubakar, wuxuu u sheegay nimankii reer ansaar. hakiladka ummuku yaa cumar buu yidhi. abuubakar intuu ku soo booday uu qabtay, hooyadaa ku weysaye, nebigii ayaa bicdo diray, nebigii ayaa usaama madax uga dhigay, animaad i leedahay cumarow ee abuubakarow ka bedel. say kaa noqotay cumar? mar allaala markii ciidankii usaama la qalqaaliyey, abuubakarna uu amray inay dhaqaajiyaan. abuubakar waxaa madax u ahaa ciidanka wiilka dhallinyaraha ah. abuubakar wuu sii sagootiyey radia allahu tacaala canhu maashiyan, asagoo lugaynaya. usaamana raakib uu yahay, uu saaran yahay faraskiisii. faras buu saaran yahay, abuubakarna wuu lugaynayaa. usaama wuxuu yidhi yaa khaliifata rasuuliillaah, rasuulkii ilaahay khaliifkiisiiyow, ilaahay baan ku dhaartee faraskaad soo koraysaa ama waan degayaa. abuubakar wuxuu yidhi allaan ku dhaartee mana degaysid, mana soo raacayo. wamaa calaya, maxaa korkeyga ahaanaya hadday lugahayga ku booroobaan oo ay ciidda kula dul socdaan fii sabiili illaahi saacatan, waxoogaa yar. haddii ilaahay jidkiisay lugahayga ciid ku yeeshaan oo ay boor ku yeeshaan, usaamow maxaa dhacay? aniga waa lugaynaa buu yidhi. ilan hore makuu raacooy, waa sagootin keliya, waana kaa soo noqonayaa.
intaa wixii ka dambeeyey ciidankii usaama way baxeen wayna dagaal galeen nasri iyo khaniimo fara badanna way soo heleen weli waxaa la tilmaamaa usaama ciidankiisa inay yihiin ciidanka ugu salaamada iyo badbaadadii nabadgelyada badan uguna khaniimada badnaa waa ciidankii ugu khaniimo badnaa ee khaniimo keena soona badbaado ciidan badan aan ka soo dhimanin markay soo noqdeenoo nasriga ay la yimideen abuubakar wuxuu qalqaaliyey haddana xamalaad kale weeraro farag bade wuxuuna ugu talagalay ta'diib iyo edbin dadka maanici zakaadka ah oo sakada manciyey iyo dagaal uu la dagaalamaya murtadiintii waa dadkii ridoobay dadka ridoobay ayuu ugu talagalay abuubakar radia allahu tacaala edbintooda inuu edbiyo inuu islaamka dib ugu soo celiyo inuu dhinac istaago abuubakar shaamiqaad sida buuraha dhaadheer ay u sugnaadaan oo kale ayuu caalamka maanta joogaa u baahnaa caalamka maanta joogaa abuubakar u baahnaa ta'diibintoodii edbintooda waayo caalamulyowm ridda laakiin abaabakar ma joogo saa darteed baa abuubakar wuxuu u istaagay inuu murtadiinta wax ka qabto u edbiyo uu dhibaato fara badan iyo waxyaabo fara badan marka uu gaarsiiyo magaaladii madiina murtadiinta inuu la dagaalamo weliba intuusan dagaalka ku qaadin waa tii abi cumar uu yidhi radia allahu tacaala canhu seed ula dagaalamaysaa qoomka sakay diideen ayadoo nebigu uu yidhi ninkii yidhaahda laa ilaaha ila allah wuxuu iga ilaaliyey dhiiggiisa iyo maalkiisa wallaahi waan la dagaalamayaa buu yidhi ninkii kala gooyey salaada iyo sakada waayo sakadu waa xaqa islaamka wallaahi hadday iga manciyaan canaaqan waa waxar ama ciqaal riwaayad kale see tilmaantay waa dabarka lagu xiro owrka marka la lisaayo ciqaalka iyo dabar haddii nebiga ay u keeni jireen hadday keeni waayaan wallaahi mancinteedan kula dagaalamayaa ayuu yidhi cumar ayuu yidhi abuubakar markaa kadib buu cumar wuxuu aqoonsaday in abuubakar uu xaq ku taagnaa radia allahu tacaala canhu ta'diib fiican edbin wanaagsan si fiican ayuu ugula mucaamalooday riddadiina uu kaga soo celiyey radia allahu tacaala canhu magaaladii madiine amni iyo tuma'niinay ku soo noqotay waxay ka wareegtay waxyaabo wuxuu u sii wareegay intaa ka bacdi abuubakar inuu sii aado shaam xaggeeda iyo ciraaq dagaalka uu sii wado waxaa ku shahiiday cadad fara badan oo intooda ugu badan ay ahaayeen xufaaddii qur'aanka taqiinay meesha aad ugu dhinteen abuubakar markaasuu amray in qur'aanka la jamciyo asagoo ka baqay inuu qur'aanku markaa kala fakfakado inuu qur'aanku kala dhudhumo ayuu markaa ka cabsanayay abuubakar intaa ka bacdi ayaa abuubakar wuxuu sameeyey abuubakar in qur'aanka jamcintiisii la sameeyo intii qur'aanka taqiinay intii mataqaanaa wixii meel ku qornaa ilaa marka hore suduun buu ku jiray bal huwa aayaat bayinaat fii suduuri aladiina uutul cilm qaar wuxuu isaga qornaa mataqaanaa meelo kale tafaraaruq saasuu kala ahaa laakiin in meel laysugu keeno oo la jamciyo ayuu xaaladaa tilmaamay radia allahu tacaala canhu waa howlihii abuubakar markaa uu qabtay mar allaala markii xukunkii uu u sugnaaday abuubakar ee uu garaacay fitantii nimankii murtadiintana meel uu saaray oo umuurtii ay ku soo noqotay kamaa hiya say markaa ahayd sidiiq wuxuu u jihaystay haddana liiclaa'i kelimati laa ilaaha ila allah sidii kelimada tawxiidka kor loogu qaadi lahaa muxamedun rasuulullah iyo in dadka laga bixiya min aldulumaati ila annuur mugdiyaalka iftiinkana markaa loo bixiyo mar allaala markii intaa uu faaruqay mar allaala markii xaaladdu ee khaalid ibni waliid uu kasoo faaruquu kasoo farxashay qitaalkii nimankii murtadiinta ahaa iyo raggii markaa ridoobay abuubakar wuxuu u diray haddana bijeish ila alciraaq ciraaq xaggeeda in lasii aado si furs lagula dagaalamo kuwaasoo islaamkoo diiday xaaladdu markay meeshaa maraysay bishii safar sanadii 13 abuubakar khaalid ibni waliid wuxuu amray haddana inuu u tawjiihaysto aado shaam xaggeeda suu musaacado u siiyo uu gacan u siiyo muslimiintii meesha ka dagaalamaysay si markaa gacan loo siiyo saasuu ku socday xaaladaasay markaa ahayd edbintii si fiican bay ugu socotay ayadoo xaalku meesha uu maraya abuubakar xanuunsaday radia allahu tacaala canhu wuu jiraday abuubakar mar allaala markii uu jiraday sababta xanuunka u keentayna waxay ahayd abuubakar baa la yidhi maalin buu qubaystay
qubays maalin qabow badan oo baarid uu jiro ayuu qubaystay. markaasaa qandhadii asiibtay 15 maalmood ayuusan gurigiisa ka bixin abuubakar uusanna aadin salaada. allahu tacaala canhu maalmaha inuu dadka markaa tujiyo salaadana uu ka bixiyo waa abuubakar. dadkii waxay ahaayeen kuwa u yimaada oo soo booqbooqda abuubakar. way soo booqanayeen asagoo gurigiisa ku jira. xanuunkaasi kama uusan suulin oo waa haayay waana ku sii darnaaday. maalin maalmaha ka mida baa loo yimid. markaasaa la yidhi dhakhtar ma ku eegay abuubakarow? markaasuu yidhi nacam, waxaa i fiiriyey buu yidhi oo i baaray oo kashfi igu sameeyey oo xaaladeyda la socda weliba oo gacanta ku haya tabiibka ugu sarreeya. man baa la yidhi keewaay rugti u fadhiistaa. markaasaa wuxuu yidhi markaasaa la yidhi muxuu ku yidhi dhakhtarkaaga? markaasuu yidhi wuxuu igu yidhi facaalun lima uriid, waxaan doono ayaan samaynayaa. ilaahay buu ula jeedaa subxaana wa tacaala. haddii aan doonana waa ku dilaa. saasuu igu yidhi dhakhtarkii i eegay oo xaaladaydii baaray oo fiiriyey oo qabiirna ah. wuxuu igu yidhi facaalun lima uriid, abuubakaroo waxaan doonaan kugu falayaa oo markaa aan kugu samaynayaa. xanuunka abuubakar kama uusan kicin radia allahu tacaala canhu. waa uuna ku geeriyooday, waa uuna ku dhintay. galab habeen 3 ay soo gelaysa galabteeda ayuu markaa ku geeriyooday oo 8 habeen ay ka dhiman tahay bisha jamaadul aakhar sanadii 13aad ee hijrada. khilaafada intii uu haayay radia allahu tacaala canhu 2 sano iyo 3 bilood bay aydsan soo tilmaanay iyo 10 habeenna waa lagu daraa. wuxuu dardaarmay abuubakar radia allahu tacaala canhu haddii uu dhinto go-a aniga aan haysta buu yidhi kaa hala ii dhaqo, kaana karfan hala igaga dhigo, 2 kale oo judad ahna halaygugu soo siyaadiyo, 3 mar in lagu karfano. maxaa dhacay baa layidhi yaa abuubakarow? in 3 maraba aan judad iyo kuwo cusub kaaga dhigno. maya tan nool, qofka nool bay anfacaysaa tan fiican buu yidhi. middan sadiid bay u dhammaanaysaa, middan waxay u dhammaanaysaa sariic, middan degdeg bay u dhammaanaysaa. laakiin midda nadiifka ah ee judadka ah ee jadiidka ah, midka xayiga ee nool bay anfacaysaa. kaasaa ku xashaashaya, kaasaa ku labisanaya, kaasaa magaalada ku maraya. intaa wixii ka dambeeyey arrintaa waa uu dardaarmay. wuxuu kaloo dardaarmay abuubakar radia allahu tacaala canhu haddii uu geeriyoodo inay maysa asmaa binti cumays radia allahu tacaala canha. taana waa uu dardaarmay cumar abuubakar radia allahu tacaala canhu. markii uu dhintay sallaa calayhi cumar ibni khitaab ayaa ku tukaday salaadii janaasada. waa la duugay habeennimo. waxaa lagu duugay nasiib wanaag ilaa jaanibi saaxibihi, saaxiib calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa ayaa isagana markaa lagu aasay. dhinaciisa ayaa lagu aasay. xadiidkii aan mar hore soo tilmaanay ee ahaa abi muusa yidhi nebigaa wuxuu i amray inaan ilaaliyo oo albaabka aan u isfadhiisto oon u noqdo bi'ru ariis. albaabkan fadhiistay markuu yidhi nebigana bi'ru ariis ceelka la yidhaahdo intuu dhinac uga fadhiistay karkaarka, waa dhismaha bannaanka laga dhiso, oo lugihiisa ku raariciyey ceelka yuu lugihiisa furay rasuulka. saaqooyinkiisii lugihiisa ayuu kor ugu qaaday hoosguntigii u watay, lugihiisana wuxuu ku raariciyey ceelka, karkaarkiina waa ku fadhiistay. insaan baa soo garaacay albaabka. yaa waayaan iri buu yidhi, waa abuubakar. sug buu yidhi, nebigaan u teg waan u sheegay, soo geli jannana ugu bishaaray buu yidhi. waan soo geliyey, ilaahay rasuulkiisana jannuu kugu bishaaraynayaa. wuxuu fadhiistay dhinacii nebiga sala allahu calayhi wasalam. asagana lugihiisa ayuu ceelka sida nebigu uu u furay lugihiisana wuu u furtay. intaa ka bacdi nin kalaa yimid, albaabkuu soo garaacay. waa kumaan idhi, waa cumar. meeshaada joog baan idhi buu yidhi. nebigaan u tegey waan u soo sheegay. wuxuu igu yidhi ma cumar bahaa ka fur albaabka ha soo galo jannana ugu bishaaray. sidii baan u sheegay. dhinaciisa bidag kale ayuu fadhiistay cumarna, lugihiisuu raariciyey. intaa ka bacdi albaabkii waan ku soo laabtay. qof kalaa soo garaacay. yaa waay cuthmaan, sug baan idhi, nebigaan u soo sheegay. ka fur albaabka u idin jannana ugu bishaaray maca balwaa tusiibuhu, balaayana way asiibi doontaa buu yidhi nebiga sal alla alay wasalam. cuthmaan ka fur albaabka jannana ugu bishaaray, balaayana way asiibi doontaa.
waan ka furay buu yidhi, nebiga jannuu kugu bishaaraynayaa maca balwa tusiibuka, ayadoo balaayo ku asiibi doontaa. cusmaan kama badinin afkiisa waxaan ahayn wallaahu almustacaan. ilaah baa la kaalmo weydiisanayaa. balaayadii cuhmaan bilaabatay ilaa iminka way sii socotaa. sidaa darteed baa dil lagu sameeyey asagoo kitaab qur'aana akhrinaya. waan arki doonaa markaan qisadiisa gaarno. cumar waa la dili doonaa asagoo salaad subax tukanaya. cali bn abi taalib waa la dili doonaa asagoo khayr markaa ku dhex jira. saasay markaa u socon doontaa. xaalka saasuu markaa u soconayaa. waata xudayfa ibnu yamaani cumar ibni khitaab u weydiiyey, uu yidhi mataqaanaa cumarow xudayfow fitanta nebiga uu kaaga sheekeeyey wax iiga sheeg. markaasuu xudayfe yidhi fitnatu rajul fii ahlihi wa maalihi ku dhacda soonkii salaadaa lagu cafinayaa. taas ma raba buu yidhi, waxaan rabaa fitnada oo hiraysaa sida hirka badda oo kale. markaasuu yidhi adiga taas waxaa idiin dhexeeya albaab buu yidhi, waxba kaa qaadi mayso. markaasuu cumar yidhi xudayfow albaabkaa ma la furayaa maya. markaasuu xudayfe yidhi bal yuksar, waa la jebin doonaa. cumar muxuu yidhi idan laa yuqlaq, haddii mar la jebiyo dib dambe loo xiri maayo ayuu u furantay noqonaysaa. markaasaa xudayfa la weydiiyey cumar ma ogaa albaabka waxa uu yahay. nacam buu yidhi saan u ognahay inay berito caawa beri kas ku xigto ayuu cumar u ogaa. albaabka la sheegayo cumar buu ahaa. cumar maalintii la dilay dhammaan dil buu ku socday. albaabka haddii la furi lahaa dib waa loo xiri karaa, laakiin mar haddii la jebiyo idan laa yuqlaq buu yidhi. marka nebiga markuu saa u fadhiistay ee abuubakar iyo cumarna ay dhinacyadii ka fadhiisteen, cuhmaan markuu soo galay wuxuu arkay karkaarkii jihada dhinacan inuu buuxsamay. markaasuu dhinacii kala fadhiistay uu nebiga iyo labadiisii saaxiib ka soo horjeestay. markaasuu lugiisii asagana furtay. intaa waxay tilmaamaysaa oo lagu fasiray qubuurtooda. nebiga sal allau alayh wasalam waa la aasay gurigii caaisha. abibakar iyo cumarna waa lagu kala dhinac aasay. cuhmaanse meesha way ka buuxsantay. halkii boos ee dhinnaa cumar baa lagu aasay. waata markii asaga la dilay qisadiisa markaan gaarnaan arki doonaa uu yidhaahday markuu sakaraadka ahay midida abuulu uu ku duray wuxuu yidhi caaisha iisoo weydiiyo fasax iga soo qaada, waxaan rabaa in laygu aaso meesha bannaan. caaisha waxay tiri anaa isku talagelayay oo meesha isku diyaarinayay, laakiin haddii cumar uu iga codsaday waan u fasaxay. cabdullaahi markuu u yimid wiilkiisuu yidhi caaisha way ku ogolaatay, waa iska naage waa dumare buu yidhi, waxaa dhici karta noloshayda inay iga xishoonayso. haddii aan dhinto igeeya, haddana mar labaad fasax iga qaada, hadday ii fasaxdana igeliya, haddii i fasixi weysana baqiic igeey iyo qubuuraha muslimiinta. waan arkaynaa munaaqabada khaliifka labaad markaanu gaarno ee cumar ibni khitaab amiiruulmu'miniin qisadiisa. marka saa darteed ayaa dadka muslimiinta ah mar walba waxaa loo baahan yahay in ilaahay subxaanah wa tacaala ay ka baryaan khayrka iyo wanaagga, iyo inuu ilaahay tawfiiqdii wanaagga markaa waafajiyo, iyo in lagu daydo khulafaa una amray sala allahu calayhi wasalam ee uu yidhi qabsada sunnadeyda iyo khulafadii raashidiinta sunnadooda, caduu calayha binnawaajidi, gombeedka ku qabsada buu dhahay nebi sala allahu calayhi wasalam. marna yaysan markaa idinka baxsanin, waayo waa afarta qofoodee sidii loogu talagalay uga soo baxday nidaamkii nebiga sala allahu calayhi wasalam markaa uu waday abubakar. munaaqabadaha iyo sharafta goonida leh ee uu leeyahay maaha wax meesha lagu soo koobi karo. albaab kasta ninkay uga wacanaysa waa abubakar radia allahu tacaala canhu. albaab kasta ninka ay ugu wacanayso. maalintuu rasuulku yidhi qofkii ku nafaqeeya zawjeen fii sabiiliillah khayr buu leeyahay. albaabaha jannada way kala duwan yihiin. baabna waxaa lagu magacaabaa baabu rayaan, baab waxaa lagu magacaabaa baabkii sadaqada. qof kasta wixii uu ku dheeraa, ileen qof kasta taqasus buu leeyahay, cibaada uu jecel yahay uu aad ugu dheereeyaa. qofna soonkuu aad u jecel yahay, qof salaaduu badiyaa, qof alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar, qof akhrinta qur'aanka. albaab kasta qof baa looga wacaa. markaasuu abubakar yidhi yaa rasuula allah, qofkii albaab uun looga waco korkiisa baasii dhibaato ma lahane, ma jiraa qof albaabaha oo dhan looga wacaya maalinta qiyaamo? qaala nacam, haa buu yidhi, waxaana rajaynayaa inaad adiga aad ka mid tahay buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. bacdamaa xaaladdu ay sidaa tahay walaalayaal, aanu dadaalno, ilaahayna xaqa aan ka barino, mar walbana ilaahay aan ka codsano subxaana wa tacaala tawfiiq wanaagsan inuu markaana waafajiyo. abubakar radia allahu tacaala saas buu noqday, sidii loogu talagalana wuu ka soo baxay. nebiga dhinaciisuuna ku aasan yahay sala allahu calayhi wasalam. nebiga dhinaciisa lagu soo bixinayaa maalinta qiyaama sala allahu calayhi wasalam. nebiga dhinaciisa asagoo socdoo jannada gelaya
abubakar radia allahu tacaala canhu. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu jumcadiisa iyo wixiisa nagu kulmiyo in sha allahu tacaala. waxaanu geli doonaa usbuuca dambana cumar ibn khitaab radia allahu tacaala canhu. ilah baanu ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo, diinta islaamkana markaa nagu sugo, dhibaatooyinkii mashaakilaadkana naga dul rafaco, muslimiinta meel kastoo ay joogaanna cizi iyo karaamo inuu ilaahay siiyan ilaahay weydiisanaynaa. allahuma aamiin, allahuma aamiin. wabillahi towfiiq.